saddex saxaabi ayaa guryihii nebiga tegey markaasay waraysteen maxaa camal uu nebigu qaban jiray markaasaa loo sheegay waabay la yaraatay intii nebi maxamed haddana si kale u fakereen waxay yidhaahdeen war nebi maxamed isaga ilaahay baa dembigiisii hore iyo kiisii dambaba dhaafay isagu daa walba dembi ma lahayn inagu dee waa dambaabnaaye mar haddaynu dambaabno waa logic ba la ciyaaraya mar haddaynu dambaabno dee intii nebi maxamed waa inaynu ka badinaa isagu ma dambaabin intaana uu sameeyey haddaba inaga dambaa inoo dheere inagu waa inaynu ka badinaa maxay intii uu samayn jiray oo maxaynu samayn mid baa dabeete wuxuu yidhi isaga ilaahay dembigiisii hore iyo kiisii dambaba uu dhaafay inaga waxba garan mayne anigu habeenba seexan maayo waan taagnaanun buu yidhi salaad un baa ku jiri kii kale wuxuu yidhi aniguna cunaba waan iska dhaaf waan soomanaan soonun baan wadi midi salaadun baan wadi buu leeyahy midina wuxuu leeyahy maxay soonun baan wadi midina wuxuu yidhi war dumarkan iyo caruurtan iyo waa waxan waxaa diintaba dadka ka mashquuliyeen guur naageed baa anigu waan dhaafi buu yidhi zaahid baan iska noqon haweenintu ka dheeraado cibaado unu banbaxa weeyaan dabeetana nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu nimankiiba u yeedhay wuxuu ku yihi antum aladiina qultum kada wakada wakada war ma idinkaa nimankii waxaa sheegay ma idinkaa sidaa iyo sidaa yidhi haabay yidhahdeen wuxuu ku yihi markaa ama wallah inii la akhshaakum lilahi wa atqaakum lah ilaahay baan ku dhaartee buu yihi anigaa ilaahay idinku alla ka cabsi badan idinkuna taqwo badan alkhashya iyo wataqwa anaa idinku alla ka cabsi badan oo idinku dhowrsanaan badan naar wax lagaga dhowrsado anaa idinku badan buu nebigu leeyahy riwaayadda imaamu axmedna waxay tilmaamaysaa wallahi inii la aclamukum billaahi anaa alla idinku cilmi badan wa atqaakum lahu qalba idan labada riwaayadoodba taqwo way sheegeen ee midna cilmay sheegtay midna khashyay sheegtay laakiin khashyad iyo cilmiguna waa wada socdaan oo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaau alle wuxuunbaaba cabsida dhabtaa ka cabsada kuwa maxay ilaahay aqoonta u leh dee nin ilaahay garanayunbaa ilaahay ka baqa nimaan rabbi iyo weynidiisa iyo cadaabkiisa iyo naartiisaba garanayni ama se ogeyni dee ma cabsado laakiin ninka rabbi og iyo awoodiisa wuu cabsan saas daraaddeed buu wuxuu nebigu ku leeyay war anaa ilaahay idinku aqoon badan idinku khashyo badan idinku cabsi badan idinku dhowrsanaan badan haddana buu nebigu yidhi anigu waan soomaa waanan afuraa waan seexdaa waanan tukadaa dumarkana waan guursadaa war ninkii jidkayga ka weecdow aniga igama mid tihid buu nebigu leeyay faman ragiba can sunnatii falaysa minii aniga wadadaydii ma haysid weeyaan xadiidkan maxaan u keenay waxaan u keenay istiqaamadu inaanay macnaheedu ahayn wax cusub inaynu iska bilbilowno cibaadada badi laakiin ariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku badi dadka badhna kuwani waa kuwii guluwiga ku dhacay dadka badhna cagsigay ku dhacaan dadka badhba haddaad tidhahdo war ilaahay waa gafuuru raxiim la soo taagan in sha allah ilaahay de waa gafuuru raxiim waxay u badantahy dadku intuu wuxuu doono iska sameeyo wuxuu kale de inagu muslimiin baynu nahay len garantii buu iska sitaa inaanu isagoo cadaab gelaynin inagu ilan muslim baynu nahay ilaahay qur-aanka wuxuu inooga waramay qisas tiro badan yahuud baa ilaahay ka waramay waqatacnaahum umama minhum asaalixuun wa minhum waa qaybinay baa la yidhi nimankii yahuudeed markay dembiga galeen waa googoynay dhulka lagu firdhiyey laakiin waxaa kamida baa ilaahay tilmaamay weli dad saalixiina laakiin haddana ilaahay wuxuu sheegay yuhuudda noocii dambe maxaa ilaahay yuhuud inoogaga waramaya ee qur-aanku waxaan oo dhan uga sheegaya waxaa la rabaa in laynoo tilmaamo inaanu ahayn waxa sheegasho inay tahay acmaal annagaa ah abnaaullahi wa axibaahu bay sheegteen annaga 40 casho qurun baa nala cadaaba inta kale nala cadaabi maayay sheegteen sheegasho inaanu arrinku ahayn qur-aanku wax kaloo laynoo tilmaamay nimanka yuhuudeed haddii dee abtirsiin tahay haddaynaan cidi ka abtirsiin fiicnayn soo ma ogidin waa ilmo nebi israa'iil waa nebi yacquub
nebi yacquubna waa ayo wayna nebi isxaaq nebi isxaaqna waa ayo wayna nebi ibraahim saddex nebi cid ku abtirsata waynu garayna iyagaa jooga carabi laba nebi bay ku abtirsataa soo maaha nebi ismaaciil iyo nebi ibraahim iyaguse waxay ku abtirsadaan maxay saddex nebi haddii markaa nebi iyo rasuul baan galaa ay arrinku tahay yuhuud baa ku guulaysan lahay laakiin ilaahay muxuu tilmaamay fakhalafa min bacdihim khalfun kuwii hore ee fiicnaa qaar baa gadaal maray baa ilaahay yihi khalfun duul xun baa gadaal maray duulkan maxaa lagu ceebeynaya ilaahay wuxuu yihi warisu lkitaaba kitaabka way dhaxleen kitaabka waxa dhaxalka loo heliyo waxa dhididka lagu helay nabigu waxa buu yidhi calayhi salaatu wasalaam zaman baa iman doona xadiiska saxiix muslim ku yaala yusbixu rajulu mu'minan wayamsi kaafira waa bariisan doono dadku isagoo mu'min oo galabaysan doono isagoo kaafiro sida jirjiroole dadku noqon doono marna masaajidka aad ku arki doonto marna kufriga aad ku arki doonto waa qof haddana islaamay oo islaamnimadii ka muuqato oo shahaadanayo diinta mar dhow kadibna acmaashiyo wuxuu wadaa kufriya gaalnimo ay keensanayso markaa nebigu wuxuu leeyahay qaar subaxiina mu'miniina galabtiina kaafiriina ama galabtii kaafiriina oo subaxii mu'miniina ayaa iman doona idan waa khatar noloshu ilaahayna wuxuu ina yidhi walaa takunuu kaalatii naqadat gazlaha min bacdi quwatin ankaasa waar ha la mid noqonina sidii tii habar reer maka yaqaaneen ayaa loogu maahmaahay islaan dadka madaxa lagaga jiraa baa jirtay oo maalintii gelinka horena xadhig bay tidci jirtay tidca soo ma taqaaniin ama waa soohi jirtay waxaa tidhaahdaba xadhig bay samayn jirtay gelinka dambana way furfuri jirtay marka waa shaqo marna la wadayo marna war sidaa ha noqonina baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala maxaa keenaya haddaba innagu xaggaynu u soconnaa waa kane inuu qofku sugmo maxaa kugu kaalmaynaya wasaa-isha iyo asbaabta kugu kaalmaynaya inaanad kadsoomin maxaa ka mid ah waxaan leenahay kow wasiilada koowaad waa ilaahay kitaabkiisa ilaahay kitaabkiisa qur-aanku aynu baranno oo akhrino oo qur-aanka axadulculamaa baa wuxuu ku tilmaamay wuxuu yidhi waa masaaxatu qaara oo lam yuktashaf ila alqaliilu minhu buu yidhi waa sida qaarada dhula oo inta iktishaafka lagu sameeyey ay weli yar tahay buu tilmaamaya wuxuu uga dan leeyahay yacni ma dhammaado barashadiisu kullamaa aqoontaadu sii korodhaba fahamkaad kitaabka u leedaha sii kordhaya aayaddaad weligaa akhriyi jirtay ayuunbaabad maanta macna aanad horeba uga fahmin ka fahmaysa nusuustaad hore u taqaanay ee intaasoo goor dhagaysatay ayuunbaa weji cusub lagaa tusaya wax cusubaad ka dareemaysaa idan ilaahay kitaabkiisu waa siraatu ullahi almustaqiim waxabluhu lmatiin weeyaan waa jidka allee quman iyo xadhiggaasi uu nebi maxamed ku tilmaamay ciddii qabsataa inay liibaanayso xadiidkii saxiixu muslim waxaan idinkaga tegayaa shay haddaad qabsataan maa in tamasaktum bihi lan tadiluu bacdi kitaab allah xadiidka saxiixu muslim intaasu ku kaabsaday axaadiista sunnada ku daraysaa meelo kale ku taaltaallaa waxaan uga dan leenahay ilaahay baa wuxuu leeyahy qul nazalahu ruuxu lqudusi min rabbik qul nazalahu ruuxu lqudusi min rabbika bilxaqi liyuthabbita aladiina aamanuu wahudan wabushra lilmuslimiin waxaad tidhaahdaa baa ilaahay nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nazalahu ruuxu lqudus qur-aanka kan malakuljibriil baa loo soo dhiiboo la soo degay oo xagga rabbi ka keenay maxaa loo soo dejiyey isagoo xaq ku dheehan baa la soo dejiyey sababtu waa maxay liyuthabbita aladiina aamanuu baa ilaahay yidhi inuu sugo ilaahay subxaanahu wa tacaala gommadda kuwa rumaysan waxaa laga yaabaa inaad tidhahdaan cusuurta tan shubahaadkaa tiro badan gaaladu waxay sheegaysaa tiro badan shubha jadiida maba jirto waxa shubha la sheegay oo dhan qur-aankaa ka jawaabay
laakiin intaynu aqoon u leenahay laga yaabaa in maanta la yidhaahdo ilxaadkii baa batay oo berigii hore wax jir jiray war ilxaadka qur-aanka ka jawaabay usuusha falsafiga ee maanta wax lagu radiyo qur-aankaa tilmaamay soo adilada ugu badan ay sheegaan waa daliilu lxuduud iyo daliilu nidaam iyo daliilu taskhiir iyo waa adilada la sheegay kullaha waa aayaatun min kitaab illah idan waxaan leenahay ama shubahaadkii qadiimka ahaadaan ama kuwa xadiidka ahaadaan ama kuway doonaanba ha ahaadaan qur'aankan baa ka jawaabaya ilaahay baana nabigiisii moxamed ha calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waqaala aladiina kafaruu lowlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida waqaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay baa waxay yidhaahdeen maxaa qur-aanka mar qura nebiga loogu soo wada dejin waayey ilaahay baa ka jawaabo wuxuu yidhi kadalik ay anzalnaahu inzaalan kadalika alinzaali almunajam waxaanu soo dejinnay soo dejin la mida kaa muratabkee uu kolba in yari soo degayso waayo linuhabbita bihi fu'aadaka waratalnaahu tartiila linuhabbita bihi fu'aadak qalbigaaga inaanu dejinna baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala aayadda kusii xigtaa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa wax kastoo ay keenaanna mihaal kastoo ay keenaanna mid ka qurux badan oo lagu radinayo oo tilmaamayaan keenaya ayan kaana qowluhum suuraddatan waa taqaanin suurat alfurqaan waqaala aladiina kafaruu waqaaluu asaatiiru lawaliin waqaaluu aqwaal alkafara baa ilaahay soo ururinaya tilmaamaya markaasuu radinaya ilaahayna wuxuu yidhi wax kastoo ay kuula yimaadaanna waxaanu keenaynaa daliilkii radinaya waa aayaddan kusii xigta waxaan uga dan leeyahay markaa qur'aanku haddii aynu si dhaba isaga u daraasayno isagaa ku filan shubahaadka la soo aroorinayo o dhan iyo waxa keenaya inaad gelgelanto isagaa ku sugaya markaa qur-aanku iimaanka isagaa suga oo beera nafta isagaa tahira qulubta dadka mu'miniinta ah ilaahay baa ku suga riyaaxulkufri oo dhan isagaa hortaaganoo teedu ah waxaynu u baahanoo dhan qur-aankaa ku filan waxaa kaloo qur-aanku inoo tilmaamaya qisas tiro badan oo ambiye iyo saalixiinba ilaahay qur-aanka kaga warramayo oo labada dhanba leh kuwa shadaa'id iyo dhibaatooyin soo mareen oo sugmay iyo kuwa nimco iyo badhaadh iyo boqortooyo soo maray oo sugmay kuwa aanay nicmadu fasahaadin iyo kuwa aanay fasahaadin maxay shiddada iyo dhibta iyo mashkiladdu aanay fasahaadin ilaahay baana wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa qisaskan waxyaabaha loo soo arooriyey inay ka mid tahay in layna sugo وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين قصص كان كاغا ورناي الرسل إلهي كورمايو وادي أركتينو نبي إبراهيم أو دبل قرديو وحسبي الله ونعم الوكيل تاغن أو سقمية واركتين نبي موسى oo xaggana fircawn iyo kooxdiisii daba socoto xaggana badi joogto oo haddana rabbigii yaqiinsan oo le kallaa ina maciya rabbi sayahdiin waa aragtay qur-aanka waxa ilaahay ambiye ka warramay iyo gaalo waxay isbadeen xagga nimcadana waa aragteen dee ambiye boqorra noqotay oo aan boqortooyada iyo sultadu waa khatar iyo maalku waa kuwuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam maa di'baani jaayaca laba yeey oo gaajaysani adhiga siday u fasahaadiyaan bay u fasahaadisaa qofka sharaftida ilaalinteeda iyo maxay magac iyo maamuuska iyo madaxnimada doonisteedu idan waa imtixaan kale dadkaa moodaya inay nimco qura tahay nicmadu waa imtixaan haddaba ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa qisas badan oo dad sugmay ah nebi daawuud nebi sulaymaan ambiye sugantay iyo ambiye kaloo xagga imtixaanka nebi ayuub nebi ibraahim nebi muuse nebi luut nebiyullaahi saalix ambiyada ilaahay tirada badan le uu qur-aanka kaga warramayo
nabiyullaahi yuusuf baynu shalay qisadiisii wax ka tilmaamaynay waa imtixaan gabadh lagu imtixaamaya quruxdiisii baa lagu fitneeyey waa qurux batay dabeetana quruxdiisii baa dhibtan keensatayba isku soo duuduuba oo waxaynu ku soo koobaynaa leenahay ilaahay kitaabkiisu iyo qisaska qur'aanka ku qorani iyo qur-aanku guud ahaanba waa awal wasiila liihbaati الnafsi cala طariiqi saxiix haddaad iltizaamto oo fahamtid aanad xambaarsanaanu ilaahay subxaanaه wa tacaala warkiisa haddaad fahamto oo ku noqnoqotid maalin walba fatxi cusub iyo faham cusub baa kuu furmaya waxaanad noqonaysaa qof sugma oo ilaahay subxaanaه wa tacaala diinta uu ku sugo shayga labaad bacda alqur'aan aan sii tilmaamaynaa isna waxa weeyaan waa acmaashan saalixa iyo iimaanka kan waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay inuu kori karo iimaanku nuqsaami karana waxa uu ku koraa inay tahay adiladaa cilmiga ee kitaabka iyo sunnadu ka warramayaan iyo cibaadaadka iyo taacaadka uu qofku la imanayo iyo wardiga iyo adkaarta iyo acmaashan uu samaynayo aliimaan walcamal الصaalix inuu yahay waxa qofka suga yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli الhaabiti fi اlxayaati اdunya wa fi اlaakhira kuwii iimaanka laga helo iyo taacaadka iyo cibaadaadka ilaahay baa u ballan qaaday inuu sugayo nolosha adduun iyo ta aakhiraba inuu sugayo walow annahum facaluu maa yuucaduuna bih lakaana khayra lahum waashadda tahbiita hadday camal sameeyaan baa la leeyahy waxa lagu waaninaya hadday sameeyaan taas baa u ah baa ilaahay leeyay wixii gomadooda xaqa ku sugayay idan acmaasha ha yaraysanin haddaad camalkaaga diineed uu bato iimaankaagaa koraya yaqiintaadaa koraysa tawakulkaagaa koraya cabsidaadaa koraysa aakhira aragtideedaa koraysa naar cabsideed baa kuu koraysa waxaad noqonaysaa qof aan adduunku qiimo badan agtiisa ku yeelanin sidaa daraaddeed waad sugmaysaa hadday iimaankaaga iyo acmaashaadu soo yaraadaan adduunkan baa kula weynaanaya iyo makhluuqa jooga iyo dadkan cabsaa ku gelaysa waxay leenahay waa wax ku suga labiibka dee waa la tilmaamaa une masale kastoo aan tilmaamayno nusuus badan oo qur'aan iyo axaadiis iyo qisas uu nebigu ka warramay iyo saxaabadii baynu soo xashirin karnaa laakiin wakhtigaynu haysanaa wuu kooban yahay marka waa idin tilmaamaya idinkaa kutubtiinni dib ugu noqon waxaynu tilmaamaynaa afraad oo qofka mu'minkaa suga baryada ilaahay qofka oo badsada inuu rabbi baryo أي مشكلة kugu timaada aad albaabka rabbi garaacda waayo biyadihi اlmulk dunidan isagay gacantiisa ku jirtaa quluubta bini aadamku bayna usbucayni min asaabici الraxmaan yuqallibuha kayfa yashaa ilaahay laba farood ou leeya ku dhex jirta isagaa dhanku doona u roga idan biyadihi اlmulk huwa اlmudabbir isaga ku tasarufa dunida see daraaddeed cidda ku tasaruftaa habboon inaad isaga barido ilaahayna nebigiisii buu ku leeyahy walowlaa an habbatnaak laqad kidta tarkanuu ilayhim shay-an qaliila haddaan annagu ku sugi lahayn baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxbaad u dhowaan lahayd maxaynu uga dan leenahay inaynu isaga barino rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka ilaahay markuu ka tilmaamay wاlraasikhuuna fi اlcilmi iyo inay ilaahay wuxuu ka soo dego dhan rumaynayaan ilahay wuxuu inoo tilmaamay dhaqankoodu inay aayaadka ku xiga rabbana laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxma inaka anta alwahaab raasikhiintaasi dhaqankoodu inuu yahay inay rabbigood baryaan iyagoo leh rabbana laa tuziq quluubana bacda id hadaytana ilaahu qalbiyadayada ha weecinin intaadna hanuunisay kadib ilaahuna sug ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa dadkii mujaahidiinta ee rabbi u gargaaraya oo ku dhawaaqaya rabbana afriq calayna sabran wahabbit aqdaamana wansurna cala alqawmi alkaafiriin iyagoo leh ilaahayow sabirka nagu foorari gumadayada sug addimadayada sug
nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam ducooyinka ugu badana uu ku ducaysan jiray waxaa ka mid ahaa yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diinik markaasay saxaabadu yidhaahdeen yaa nabiy allahi aamanaa bika wabima ji'ta bihi fahal takhaafu calayna ilaahayna waa rumaynay wixii aad la timina waa rumaynay rasuulkii iyo diintii ee miyaad noo cabsoonaysaa bay leeyihin raggaa waddada hayaanne miyaad shakaa naga kaa galay markaasuu nebigu leeyahay nacam ina alquluuba bayna isbacayni min asaabici illahi yuqallibuha kayfa yashaa xadiidka imaamu tirmidi iyo ibnu maaja baa warinaya sheekh albaanina saxiix buu ku tilmaamaya nebigu wuxuu leeyahay haaya waa idin baqaya waayo quluubta ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa rabbaa siduu doono u gegediya ayuha alaxiba waxaan leenahay markaasi ilaahay baryadiisu qofka mu'minka ahi damaana ma haysatid afa aaminuu makra allah falaa yamanu makra allahi ila alqawmu alkhaasiruun damaanku waa inaad isaga baryadiisa ku taagnaatid dee dadna waxa uu u liita buu nebigu tilmaamay waxa u tamar yar acjazu nnaasi man cajisa can adducaa ninka baryada ka wahsada waayada dambe waxaa laga yaabaa in odayadeennii hore ay naga baryo badan yihiin waayo waxaa laga yaabaa raggu fiqiga markay noqotay inay qaateen ducaadka jamaaciga malaa in laga roonyay oo haddii laga roonaado ma iskaba daynaysaa markaa ma kabuhun baad ilan mise ilaahay baad baryi qofka muslimka ahi waa inuu ilaahay baryadiisa badiya shayga shanaad aan tilmaamayna waxa weeyaan ilaahay xuskiisa inaad badiso haddaad rabto inaad dariiqan ku sugantid ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya alaa bidikri illaah tatma'inu alquluub qolyaha kan maskaxda iyo waxaan ka warramaa dadka waxay siiyaan kiniinno ay yidhaahdaan maskaxday dejinayaan neerfahay dejinayaan warwarkay reebayaan walbahaarkay reebayaan kanbay reebayaan waxaan leenahay warwaroo dhammi wuu kaa tegi haddaad min addaakiriin ka mid tahay ilaahay dikrigiisa haddaad badsato nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo kii xadiidka saxiixa ku tilmaamayay saxaabigii yidhi baryadaydaba rubuc baan adiga kaa dhigaa ka badso uu yidhi intan baan ka dhigaa ka badso aakhirkii uu yidhi haddaa waxoo dhanba waxaan ka dhigi doonaa salligaaga markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaa dhibtaada hamigaaga waa lagaaga fillaan hamigaaga waa lagaaga fillaan idan waxa shakiga kugu beeraya warwarka iyo walbahaarka keenaya waxaa maydha qalbiga kan alaa bidikri illahi tatma'inu alquluub ilaahay xuskiisa inaad badsato sidaa ogeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuruu allaha kaiira lacallakum tuflixuun war kuwa iimaanka laga helayow haddaad la kulantaan jihaad dagaal haddaa gashaan dagaalku waa meelaha ugu badanee qofku qalbigu gelgelmo dee meel rasaas iyo xabadda laysla dhacayo meel fudud maaha dadka inta adkaysan karta markay ka dul sanqarhayso waa in yar ilaahay wuxuu ina leeyahay fahbutuu sugma waxay culammadu yidhaahdaan wadkuru llaha kaiiran waxa loogu xidhay waa waxa qofka suga markii la yidhi sugma ayaa waxaa loo tilmaamay wixii uu ku sugmi lahaa wixii cabsida ka kaxayn lahaa iyo warwarka kan markaasaa ilahay yidhi wadkuru llaha kaiira lacallakum tuflixuun dee waana ka ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu llaha dikran kaiira wasabbixuuhu bukratan waasiila huwa aladii yusallii calaykum wamalaa'ikatahu liyukhrijakum min aldulumaati ila annuur wakana bilmu'miniina raxiima war inta iimaanka laga helo ilaahay in badan xusa baa la yidhi horta dikrigu waa cibaadada aan xadkaba lahayn meelo gaara unbaa xuduud yar loo sheegay ee markaad salaada ka baxdo 33 meelo gaaraa tiro kooban la sheegay laakiin dikrigu waxay yidhahdaan waa cibaadada tiradeedu aanay xad lahayn ee wakhtigeedu aanu xad lahayn
ee aan waxbaba ku xidhnayn walaa tahaaro walaa weyse walaa janaabo walaa waxba toona aan ku xidhnayn waa cibaadadaad markaad doontaba samayn karto awqaadkaaga oo dhan aad samayn karto sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu yidhi war ilaahay in badan xusa wasabbixuuhu bukratan wa asiila gelin horiyo gelin dambaba u tasbiixsada maxaa ka dhalanaya taa waxaa ka dhalanaya huwa aladii yusallii calaykum wamalaa'ikatahu liyukhrijakum min adulumaati ila annuur ilaahay salligiisa iyo salliga malaa'igta ilaahay naxariistiisa iyo istikfaarta malaa'igtu kuu dalbayso oo keensanaya liyukhrijakum min adulumaati ila annuur haddii dulumaadka lagaa saaro dee shaki iyo warwar iyo walbahaar iyo kaa hadhe si aad waxa kan u hesho sidaa yeel baa la yidhi waxaynu leenahay ayuha alaxiba waa dul marayaa uuna qodobmaya waxa weeyaan bini aadamku waxa uu ku mashquulo ayaa warwarkiisuna kaa ku bataa saxaabadii haddaad akhrido ma akhriday axaadiista riyada ku saabsan saxaabada ee soo aroortay bal eeg dhammaantood diin bay ku riyoonayeen waayo diin bay ka shaqaynayeen innaga teenu xagee u badanaysaaba dilata haddaabaad riyooto maxaad ku riyootaan qofka bini aadamkii bay dhahaan wuxuu mashquulka ku yahay ayaa maskaxdiisa iyo wixiisoo dhan qaataa haddii aad diintan inaad ka shaqayso mashquul ku noqotid waad sugmaysaa waa wadiifatu rusul waa turuqii ilaahay rususha ku sugay dabeetana uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qul hadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii wasubxaana allahi wama ana min almushrikiin dee ilaahayna wuxuu inoo tilmaamay in tansuru llaha yansurkum maxaa ku xiga wayuthabbit aqdaamakum lumi maysaan dee ilaahay diintiisa saa loogu hiiliyaana ama waa jihaad ama waa dacwade jihaadkuba waa dacwadu nooc ka mide waa inaad dadka diinta ugu yeedho haddaad dadka diinta ugu yeedho oo aad laasimto jidka kan yansurkum wayuthabbit aqdaamakum baa ilaahay yidhi rabbi waa idin sugayaa oo gommaddiinnana wuu sugayaa qodobka lixaad ama qodobka toddobaad aan tilmaamaya wuxuu yihi wasaaisha keensanaysa inay sugtaa waa alrifqa asaalixa waa dadka fiican iyo dadka saalixiintoo laga ag dhowaado waayo nebigu wuxuu idhi dadka badh baa ah mafaatixun lilkhayr maqaaliqun lishar dadka badh baa ah furayaasha khayrka oo intaad la ag joogto khayr wanaad ka helayso xidhayaasha sharka oo sharku ku dhaafayo ilaahayna nabigiisii moxamed ah calayhi salaatu wasalaam nimankii madaxda ayuu dacwada u sheegayay markuu cabbaal ku mashquulay ilaahay wuxuu ku yidhi ay iyaguna yidhaahdeen qoladan wardinaysu naga kaxee masaakiinta ah annagu aan kuu soo galle wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiyi yuriiduuna wajha walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati kuwa la joog baa la yidhi kuwaa la joog ninkii uu nebigu ka warramay dadka laaye toobadkeenana waa tii lagu yidhi magaaladan way dad xuntee ka tageen meesha dadka saalixiintii joogaan qabaa lagu yidhi oo halkan iskaga tag haddaad dadka ahlucilmigaa kaga dhowaato dee ilaahay baa wuxuu ina leeyayba waida jaءahum amru min alأmni aw اlkhawfi aadaacuu bihi walow radduuhu ila الrasuul wailaa uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituuna kuwa istinbaadka samaynaya mushkilaadka dhaca iyo waxa kan oo dhan iyagu kuu iftiiminaya inaad ag joogto haba fiican kuwa haddaad ka ag dhowdahay lumi maysid haddii kale fitanka dunida iyo mugdigeedu inay jidka ku weydaariyaan waa suurtagal qodobka sideedaad aan tilmaamaya waxa weeyaan athiqatu biاllah kalsoonidaynu ilaahay ku qabnaa inay weynaato iyo ilaahay inuu kuu hiilinayo kalsoonida aad ku qabto oo nebigu calayhi الsalaatu wassalaam
saxaabadu waagii koowaade dhibtu ku tiro badatay khabaab iyo waa kuwii u yimi iyagoo la cadaabayo markaasay yidhaha ilaahay rasuulkiiyo maad ilaahay noo barideed maad ka noo yeeshid nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waa degdegaysaa intuu qiso uga sheekeeyey dadkii horeysay diintan ugu sabreen iyo dhibtii qabsatay ayuu wuxuu ku yidhi wallahi layutimanna hada alamr xataa allaan ku dhaartee wuu dhammaystirmi doonaa arrinka kani ilaa iyo ninka raakibka ahay sanca ilaa xadaramowt uu socdo laa yakhaafu ila allah waxaasaan loo leeyahay dhulkan dawlada kama jirin waa daydaygeennii uun dunidu wada mooryaan bay ahayd markaa qofku meesha uu degan yahay hadduu ka baxo ama intan mantaqada reerkood iyo intana degan tahay hadduu ka baxo isaga iyo carruurta iyo xoolaha iyo intaba inta laysku qaataa baa la iibin jiray adigoo nool baa lagu qabanaya deetana waa lagu iibinaya waa mooryaantii oo kale un siday ahayd dhulkii mooryaanta looga caagay ayuu nebigu wuxuu leeyahay ilaahay diintiisan intuu kor yeelo ayaa ninka raakibka ahay sanca ilaa iyo xadaramowt buu socon doonaa isagoo rabbi mooyaanaan cid kale ka baqaynin iyo adhiga inuu yeyga ka ceshado ee waa degdegaysaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan filayaa wakhtigu inuu gebagabayay waxaynu ku soo koobaynaa markaa sabirka iyo adkaysiga inaad baratid ayaa sagaala yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالصabri waالsalaa in allaha maca saabiriin gargaarsada baa ilaahay yidhi sabir iyo salaad ilaahay kuwa sabruu la jiraaye nebiguna wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam lama siinin qofna cataa ka khayr badan oo ka ballaadhan sabirka uu sabrayo labaataneeyo qodob waa qorantay laakiin waxaan ku gebagabaynayaa qodobka tobnaad inaynu u fiirsano naciimka jannada iyo cadaabka naareed iyo geeridan dhow intaasi inay qalbigeenna xoog u degto mahmaa lacagi kuu badato iyo nimco aad mooddo inaad haysato ama mahmaa shidda iyo dhibi kugu badato labaduba waa maalmo waxaase ka dambeeya janno carduha asamaawaat waalard oo wax kasta oo caqli bini aadam uu ka fakaro ama dhegi maqashay ama ila aragtay wax ka koreeya ay yaalliin xaggeeda kalena waxa yaalla naar iyo jahannamo iyo jaxiima iyo meel dadka lagu cadaabo oo rabbu الsamaawaati waalardi uu cadaabayo allihii naxariista badnaa uu cadaabayo labadaasaa kaa horeeya ka warran haddaad laba jid arkayso kaasna barwaaqo iyo badhaadha kuu muuqato kaana holac naareed iyo balaaya ka soo muuqato geeriduna waa khadka un labadaa midaad kaga dhacayso meeshaad ka kala firaynaysaa round abaadkaad ka wareegaysaa xagga jannadaad u wareegaysaa mise xagga kalead u wareegaysaa waa geeridan marka nafta lagaa qaada unbaa malaa'igta qaar kugu soo xaadiraysaa ma kuwa naarta kugu soo xaadiri mise kuwa kale haddii masaladaasi ay qalbigaaga degtana waad sugmaysaa waayo waxaan ka sokeeyo dhan cayaar bay kuugu muuqanayaan waa laysdilay iyo waa laysciqaabay iyo madax baan noqdo waa siyaasaddaa waxaan iska wadatay waxaasoo dhan waa sheekay bareley markay janno iyo naar iyo geeri joogto sida awgeed buu nebi moxamed ina leeyahy calayhi salaatu wasalaam waar in badan xasuusta ka macaanka gooya geerida in badan xasuusta ayuha alaxiba dunidaynu joognaa imtixaankeedu ma yara dadka badhna iyagaabaa cagahooda ku doonanaya oo dadkaaba usii ordaya ilaahu xoogno itixaan mid madaxnimo ku rooraya waa ilaahu xoog iyo itixaan unde ka xoolaa ku rooraya waa ilaahu xoog iyo itixaan waxaanaynu ku rooraynaa waxa weeyaan imtixaanka ilaahu badi inaad guulaysan doontana haddii labadaba lagu dhiibana garan maysid xagga kalena qaar baa ilaahay uu itixaamo u doortay isagu gaajo iyo maxaan ku idhahaa amni darro iyo xanuun iyo wuxuu waa imtixaan labada dhanba waxaa habboon inaan ilaahay weydiisanay in rabbi ina sugo
wasaaisha lagu sugmayo asbaabtana inaynu qaadanno si aynu u suganno. sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. waxaan isleeyahay qaad markaynu idhaahno soomaali qofka ahi malaa waa well experienced, yacni waa qof si fiican u yaqaana qaad wuxuu galo iyo wuxuu gudaba. taariikhiyan dib ugu noqon maayo, laakiin qaadka waagii hore reer galbeedku juhdi badan may gelinin, waayo dhulkoodana laguma cuni jirin manay aqoonin. nimankii ugu horreeyee soo arka waxay ahayn 5 nin ee Scandinavian-ka laga diray ee magacaba uu bixiyey ee Yemen tegey, iyagana markii dambe kanay caalaysayba way madheen. marka cumuuman la eego marka qaadka daraasaadkiisu waxay inta badan bateen toddobaatanaadka wixii ka dambeeyey baxthi badan baa lagu sameeyey, natiijooyin tiro badanina way ka soo baxeen. daraasaad jaamacaad tiro badan, kuwa maraykanka, kuwa jarmalka, kuwa switzerlanda, qaar ingiriiska, dad badan baa sameeyey buxuuth sacuudiga, xataa jaamacaddii soomaaliyeed ee muqdisho ee baxthi bay ka sameeyeen 83kii. marka la eego buxuustaasi tirada badan lee laga qoray, runtii dhammaantood waa ku argagaxgelinayaan. wax wanaag lagu sheegayaa ma jiro. tala United Nationku WHO 1973 baan filayaa markay baaritaanadoodii koowaad samaynayeen 40 maadday sheegeenoo ku jira, laakiin waagaa may aqoonin maadada tan ugu khatarsan ee cathinone la yidhaahdo. waayo cathinonku maadaday markaa iyagu moodayaan inay ugu khatarsantae ku jirta waa cathinku waa light drug, waa stimulant, waa drugska 3 qaybood bay u qaybiyaan. qayb kicisa jidhka iyo maskaxda iyo qofka bini aadamka fikradiisa, iyo qayb nabto oo dejisa oo hurdaysa, iyo qayb hallucination khayaaluun iyo inuu wax maqlo iyo riyo ku itixaanta. qaadku isagu wuxuu ku jiraa waa stimulant, kokainku la kooxiyey, waa qaybaha kiciya qofka bini aadamka ah. qaadka markaa ugu horraysay wixii ay ka heleen maadada kaathiinka ah oo ay ku tilmaamayaan inay psychoactive drug tahay oo ay la darag fudud tahay ayay moodayeen inay wax walba tahay, inkastoo iyada lafteedu caffeine anti-doping agency-ga mamnuucaadkiisu ku jira. qoladan orodada iyo olombiga iyo kuwa wax cayaariya maadaadkan laga baadho ee qofka la eego inuu dragaysan yahay iyo in kale, kuwaasay ka tirsan tahay. waxa uu shartiya inuu 5 microgram per milliliter inuu ka yar yahay. hadduu 5 microgram soo gaadho waa drug abuse, waa kuwan ordada laga reeba iyo waxaan oo dhan bay ku jirtaa. marka asliyan iyaba waa maado ah maadaadka dunida loo rumaysan yahay inay drugska ka mid tahay, laakiin way ka fududahay ta kale marka loo eego. cathinonka maadada la yidhaahdo mawaadda ugu khatarsane ku jirta ah, markaa hore lama garanin, laakiin waa lagu qanci kari waaye inay caathin qura waxa ku jira ay tahay. haddana wixii kale ku jiray waa xoog loo sheegi kari waaye ama la garan kari waaye, waayo waa lagu qanci kari waayo cathinku waxa uu ugu badan yahay inta la tuuro. marka haddii waxa loo cunaya ay tan tahay bay leeyihin maxaa loo tuuraya ma iyada aad loo cuno. garaabadan weyn iyo ushan dheer oo baalka samaysan iyo kuwaasay ku badantay, intan yara curubta la goosto kuma badna. su-aasha isweydiinta le waxay noqotay marka war haddii bahalkan caathin uu yahay waxa loo cunayaa, maxaa intii la tuurayeyna ku badiyey intan la cunayana ku yareeyey? waa inay jirtaa wax kaloo intan yari ay wadato gaara. taasaa waxay keentay in baxdiga dib loogu noqdo. 1975 ayay markaa isolate gareeyeen oo soo saareen maaddo la yidhaahda cathinone inay ku jirto. 1978na molecular structurekeeda ayaa la soo bandhigay oo waxay reciprocal u tahay, waa uun amfetamin, natural amfetamin bay ku tilmaamaan. waa amfetamin muraayadda chemicalisay u samaysanta, haddii muraayad loo dhigo qaabkay u soo baxayso ayuunbay u soo baxaysaa bay yidhahdaan. cathinone waxyaabaha ay baadhista ugu adkaatay waxaa ka mid ah
maadaama westranku inta badan waa dhulka wax lagu baadhayo qaadkuna wakhti badan la soo saadayo waa maada aan joogisteedu badnayn 48 saac kadib caffeine iyo neuroephedrine bay isu beddeshaa waa 48 saac marka geedka laga soo jaro oo qura ayay sideedii u joogi kartaa wixii ka dambeeya waxay dhahdaan nimanka qaadka warramaa qaadka waxa la saaro dhami way dheereeyaan sababta ma garanaysaan di dameer la saaro di awr la saaro di gaadhe la saaro wax kastoo la saaro waa la eriyayaan waxa weeyaan maadadan baa la ilaalinayaa inta aanay isbedelin in dadka hore loo gaarsiiyo maadada tan inta aan isbedelku ku dhicin in dadkii cunaya ee hore u gaadho waa la soo duuduubaa oo berigii horena caleen muusiya waxbaa lagu soo duuduubi jiray amaba si moosjarkeeda iyo waxeeda loo ilaaliyo waayo maadadani hadday iftiinka la kulanto ama oksijiinka ay la kulanto markiiba way isbeddeshaa qolada qaadwalaha waxaa ka maqashaan kala furfuro ma jecla inay cunaan waa mid rabdada nasiib ay dhahay mid hadda duuduuban waayo kan duuduuban kaatinoontiisiibaa ayaa u ilaashan laakiin haddii la furfuro oo la baadhbaadho kolba dabadda loo soo bandhigo oo uu iftiinka la kulmo ama oksijiin badan la kulmo chemical structurekiisii baa isbeddelaya marka caffeine bay noqonaysaa ama neuroephedrine bay isu beddelaysaa oo cathinone bay ka baxaysaa marka waa unstable bay dhahdaan maaddo ah maadaama ay maaddo unstable tahay waa in qaabka loo kaydinayo qaabka loo dedejinayo qaabka qofka loo gaadhsiinayo 48 saac hadduu dhaafo daragii loo baahnaa maaha waa inuu wakhti fudud lagu geeyaa cumuuman 40 maaddo wax ku dhadhow baa ku jira tanise waa maadada ay drag ahaan u leeyihiin waa ugu khatarsan tahay waayo dunida badhna drugska herarkiga ay kala leeyihiin qaybta saddexaad baa ku jirta maraykankana qaybta afraad baa ku daraa laakiin mawaad kalena waa ku jiraan maalan tanic acid baa ku jirta tanic acidka waxa weeyaan waa acid dhan lagu magdiyo haragga kan qaadka cuna waxaan ilku uga daataan ama dibnu cadaadaan ama waa nin acid haragga lagu magdiyo ee qudhunka lagaga gooyo dee afka ku walaaqaya that's why uu dhacayso waxa kani waa sababaha ku keena inta badan ulcerku ku dhaco waxyaabo badan oo kale ku jira laakiin maadada tani cathinonka la yidhaahdaa chemically waxay dhahaan laba shay bay sababtaa wax degdega iyo wax long term ah waxyaabaha degdega ay keento waxaa ka mid ah qofku markuu bahalkan cuno central nerve systemkiisa ayay been u sheegtaa dabeetana qanjidhkan kalida kor saaran baa soo daaya dheecaamo kadibna maskaxdu waxay bilowdaa firkanax waxay ku tilmaamaan firkanaxaasi wuxuu yahay qofku markuu baadadatani jidhkiisa gashay koowaad waxaa bilaabmaya firkanaxu waa qofku markuu dagaal maalan markaad u diyaargaroobayso kale qofku markuu dagaalamayo jidhkiisa maxaa isbeddela waxaa isbeddela wadna garaacistiisa badata si aad enerjigu xoog u heli karto waxaa isbeddela bay yidhaahdeen yacni waxyaabo badan oo jidhka ka mid a ayaa isbeddelu ku dhacaa marka maadada tani markay jidhka gasho xididadu way yaraadaan waayo waxaa loogu talagalay qofku hadduu dagaal galo xididku hadduu ballaadhan yahay dhiig badan baa kaa qubanaya ilahay baa kuugu talagalay marka aad dagaalamayso in xididkaagu yaraado si aan dhiig badani kaaga quban mawaadda sameeya maxaa la yidhaahdaa bahashan la yidhaha xinjiraha way diyaargaroobaan si haddii nabar kugu dhaco qofka qaadka cunaya instantka koowaad wuxuu la mid noqdaa sidii qof dagaal galayoo kaleu jidhkiisu u react garaya marka waxa isbeddela waxyaabo tiro badan leh effectska ay sheegaan markaa waxaa ka mid ah garaacista wadnahoo badata neefsashadoo degdeg noqota temperatureka jidhkaoo kor u kaca blood pressurekaagoo kor u kaca qofka euphoria taga ama marqaanka waxaanay ku sheegaan waxa bilaabma bay dhaaheen euphoriada marka uu gaadho marka hore maadada tani nusu saaca hore waxay ku sii jirtaa weli inuu jidhku nuugis ku sameeyo laakiin markuu nuugistaa jidhku ku sameeyo uu jidhka ay gasho waxaa bilaabma wakhtiga hadalbadnida
qolada qaadka cuntaa marka hore baalka lagu goosta cabaan marka la joogaa sheekada isku duba dhacda markaas la wada hadlaa waxay dhahdaan maadadani waxay sababtaa marka koowaad in uu qofku talkative isu bedelo oo aad u hadal bato waxay kaloo samaysaa bay dhahdeen manic behavior ama hyperactive buu noqdaa dhaqan waalimeedka u eg markay marqaamaan waad aragtay mooyiinaad u fiirsatay midi garaabadan agtiisa taallu googooya qaar qor yar bay jeexjeexaan qaar afku dhaqdhaqaajiya yani waa manic behavior bay dhahdaan waa nooc waalida ka mid ah waxa uu bilaabmaya bay leeyihin qofku inuu jidhkiisu controolku ka lumo qaybaha qaar ka mida ama involuntarily waxyaabo badan oo aan ahayn wuxuu normally u samayn jiray inuu bilaabo inuu qabto oo qof hyperactive uu noqdo energetic uu u muuqdo waxyaabahay samaysa waxaa ka mida bay idhaahdeen xiidmaha iyo qaybaha kan way seexisaa muscle contractionka release baa ku dhaca taasi waxay sababtaa constipation kan tirada badan leh dadka qaadka laasima inta badan calool istaag baa ku dhaca baasiir baa ku dhaca yani xanuunada noocaasi oo dhan ayay la kulmaan waxa ku dhacaba la yidhahdo qofku wakhtiga kan hadduu sii badsado ama bay yidhaahdeen markuu isku dayo inuu iska yara daayo wakhti yarka uu ka baxo hallucination baa ku dhaca bay yidhaahdeen inuu waxyaabo sawiro waa waxaanay Soomaalidu dubaabka tiraahdo Soomaalidan maqalada qaysa markay yiraahdaan qaad baan waayo dubaab baa cunay kan baa dhacay waa hallucination iskan bay yiraahdaan hallucination ayaa ku dhaca waxyaabaha uu sababo waxa kamida bay yiraahdaan hadduu qofku markuu iska daayo tremor ba ku dhacay isagoo iska fadhiyo ba kolba jirka meel dhaqaaqda uu moodaa in la taabanayo ama muruq gariira ama jirku dhaqdhaqaaq badan uu sameeyaa nightmare baa ku dhaca inuu habeenadii riyooyin badan uu sameeyo waxay tilmaamaan qofku inuu marqaanka gaadhaa wuxuu u baahan yahay bay dhahayn jidhkiisa kiilo kasto ka midi inuu 0.8 milligram of cathinone uu qaato maalan ninka 70 culayskiisu yahay 56 milligram cathinone buu u baahan yahay sidoo waxaanaynu sheegaynoo dhan uu u gaari karo ama uu samayn karo waxaan isku dayayaa wakhtigoo yar inaan wax badan ka tallaabo oo soo koobo waxyaabaha ay leeyihiin uu sababaa waxaa ka mid ah sonkorta jidhka baallada ku jira tribinoidska ku jira daraaddeed sonkorta jidhku way badataa dadka macaanka qaba khatar buu yahay waayo sonkorta jidhkooda ayuu tiro badiyaa Soomaalidu laakiin waxay moodaa qadhaadhku inuu wax ka taro macaanka inuu wax ka taraabay moodayaan waxyaabaha uu keeno waxa ka mid ah bay yidhaahdaan xanuunada psychologicalka qofka ku dhaca oo qalaqa kan ama idraabka nafsiga ama waxaan iminka Soomaalidu ay buufiska u bixisay qofka codad maqla ama xataa dadka qaarkood paranoid wuu dhaafaa schizophrenia buu la gaadha oo inuu qofku codad maqlo ama uu shakiyo oo yiraahdo waa la xamanayay qof laba qof meel iska fadhiyo yiraahdo maxay maagayseen ama maxay xamanayseen ama maxay ugu hadal hayseen waxa ku dhaca bay yiraahdeen qofka isagoo quramahay waliba wakhtigan dambe maadaama uu batay conceptionkiisii cunistiisii markay badatay qaad quramaha bay leeyihiin sidiisu toxic ku yahay kuwan beera waxyaabahan lagaga ilaalinayo caleenta iyada la iibinayo inay fiicnaato la rabaa dhalaasho marka pesticides iyo insecticides iyo kuwan lagu daro caalamka laga keeno DDT iyo qaar la mid ah baa lagu daraa ilaa xad laga helo dadka cuna qaar ka mid ah DDT caadiya dhiigooda khaatirtu inta baadho DDT caadiya laga helo ma aha inuu qaadku materialkan DDT-ga uu leeyahay ma laha isagu laakiin waxa uu la socday waa dawooyinkii lagu buufiyay wixii lagu ilaalinayay inuu si fiican u baxo ama caleentu aanay daldalool yeelanin ama ay quruxsanaato waxaynu naqaanaa qaadku wuxuu keenaa balwado badan oo kale uu bilaabaa inta badan qofku markuu qaadka cuno smokingkuna wuu raacay inuu sigaarka cabo dad badan oo galbeedka jooga qaadka markay cunaan khamri ka daba cabaan waayo khamradu waxay ka mid tahay drugska kuwa caqliga dejiya ama daboola qaadkuna wuu kiciyaa marka waan ku jabinayaadana yidhaahdaan waa runtood qaadku kor buu qaadayaa markuu dawakhana khamr markuu cabana dib u celinaya haddana waa laba waaliyadoo midba dhinac u socoto waa ka mid
dee waxyaabahan kale drug relatedka la ah meelahan lagu cunayo waxa kan xanuunada infectionka lagu kala qaada yani maalmaha ka mid ah waddan Yurub ka mid ah bay godadka yar lagu qayla mid ka mid ay qabteen waxaan rajaynayaa haddaanan hilmaamin 12 qof bay qabteen oo 8 bay tiib bay ka heleen yani maca way wateen raajitadoodii dadkan waa loogu taag waayay dhakhtar kaale iyo waxa marka qolada hygiene to guuraysa meesha intay dul timi ayaa la qabqabtay dabeetana toos baa loo saaray sawirradii wixii la rabay laga qaado 12 qof baa 8 laga helay TB ka isagu TB ma keenin laakiin circumstances-kan ku xeeran dhulkan lagu qayliyo meesha la fadhiyo waxa kan ayaa keena problems kan tirada badan leh waxa isweydiinayaan inta aan drugga kanaad xoog u isticmaashay aanu waalida gaarsiinin financial crisis-ka uu sameeyo dhaqaale burburka uu sameeyo isaga qayb weyn ka ah bay yidhaahdaan waalida ku timaada iyo buufiska dadka kan ku dhaca waxaa ka yimaada bay yidhaahdeen qofka oo 8 saacadood oo waqtigiisa ka mid ay ka khasaarto oo dee meelun fadhiyo sheekaynaya waxay yidhaahdaan waxaa ka mid ah marka uu cuno ee waqtiga uu cunistiisa ku jiro waa hyperactive marka hore laakiin marka dambe wuxuu bilaabaa inuu dumo marka uu soo dumayo dad meelaha qaadka ku cunaan aragto marka hore ee bahalka la bilaabo wala wada farfaraxsan yahay markuu si fiican jirka u galana sheekada iyo hadalka badata marka dambana waa la kala wada aamusaa ninba meel buu gaar isaga jeestaa uu aamusaa waa markuu bilaabmo bay leeyiin euphoria-da inay degto marka drowsiness-ku waa markuu ku bilaabmo qof waliba inuu gaar u aamuso hadhow markuu ka luqluqdo inuu meelaha finfindhicisho ama keligii meel istaago waxyaabaha uu keena waxa ka mid ah bay leeyiin hadhow inuu hurdada seexan kari waayo hurdo yari baa ka mid ah waxyaabaha la socota markuu hurdada seexan kari waayo waxay yidhaahdaan nin Soomaaliyeed baan arkaa wuxuu igu yidhi 7 shaqaa la iga eriyay buu yidhi 7daba qaad baa la igaga eriyay yani 7 shaqaan ka tagay buu yidhi 7daba waxa la igaga eriyay anigoo intaan habeenkii qaad cunay subaxii ama daalay ama hore u kici kari waayo ama waqti dambe tagay sabab qaad baa la igaga eriyay waan iska daayay buu yidhi shaqaan bilaabay 5 sanadood oo isku xigtaan xataa maalin xanuunsan buu yidhi markaasay igu yidhaahdeen buu yidhi war adigu dadku maalin xanuuna wuu qaataa ma iska xanuunsatidna yani gaaladu waxay dhahaan berri waan xanuunsan doonaa bay dhahaan 3 days year baa la ogoliyay marka wuxuu tilmaamayay in noloshiisa inta uu difference-ka u dhaxeeya inta uu leegyahay markaan soo duuduubo runtii waqtiga daraaddeed waxa laga qoray aad bay u tiro badan yihiin laakiin qaybtiisa psychologicalka markaynu tilmaamno waxay yidhaahdaan stage 1ka 20 ilaa 25 daqiiqadood ama 15 daqiiqadood ilaa 20 daqiiqadood ugu horeeya wuxuu galaabay yidhaahdeen xaalatu tanbiih ama at-tanabbuh xaaladda soo jeedkii hore sidii nin koofi cabay oo kale firfircoonida hore u dareema 90 minute markay gaadho bay yidhaahdaan waa xaalatul kayf waa euphoria-da markuu gaadho marqaanka rasmiga markuu gaadho hadalku tiro bata weeyaan xaaladda saddexaad bay yidhaahdaan oo marka uu ka kacayo waa marka alqalaqi nafsi uu bilaabmo maqaayiis tiro badan oo ay ku sameeyeen ama qiimayn tiro badan iyo baadhitaanno tiro badan oo ay ku sameeyeen waxay caddaynayaan kow inuu khalkhal geliyo cawaatifta qofka bini aadamka oo dhan oo uu ka mid yahay faraxa murugada ay ka mid tahay nacaybka jacaylka ay ka mid tahay dhaqdhaqaaqa ay ka mid tahay dhiiranida baqaha waxaasoo dhan khalal buu ku sameeyaa bay leeyihiin oo qofku normalitygiisii ma noqdo marka aan soo duuduubo waxaan leenahay waagii hore ee qaadka aqoonta loo hayay scientifically ay yarayd muran badan baa jiray bayna alculamaa kuwa sharciya iyo kuwa kaleba muranku wuu badnaa waayo qadaayaad scientifica oo yaallay ma jirin laakiin wakhtigan dambe hadda qof aan ogayn unbaa murma laakiin daraasaadkiisa cilmiga qofka akhriyaa runtii ma murmi karo sidaa awgeed ayaa munadama sixa alcaalamiya WHO 1979 ayay baaxisiinteedu waxaa lagu daray inuu ka mid yahay 40 maado bay sheegeen oo qaadka laga helo waxaana aakhirkii la go'aamiyey inuu drugska ka mid yahay maandooriyayaashay ku dareen
مؤتمر العالم الإسلامي لمكافحة المسكرات والمخدرات iyaguna waxay go'aamiyeen inuu ka mid yahay mukhadaraadka sharciyan xaaraamta ah. fataawi الculamaaءi الmuslimiin markaynu eegnana fataawi aad u tiro badan oo fogaynaysa ayaa ka soo baxday. duduub ahaan wixii ay adilo sheegaan waxaan jeclay inaan mar wada sheego, laakiin haddaan qaadka inaha ku koobo, idan adduunka waa laga wada tegayaa, waxaana la wada rumaysan yahay hadihi الdaar hiya daar
markuu tukada ayuu wuxuu odhan jiray ma minkum ru'ya war xalayaa wax arkay kasay saxaabadu u sheegi jireen waxay arkeen dabeetana wuu u fasiri jiray sidee buu qofku ku noqon karaaba isweydiin leh qof dhaqan fiican maadaama ay qiimaha intan leeg diinta iyo dhaqamada bini aadamkaba akhlaaqdu ku leedahay waa maxay waddada loo mari karaa ugu horreyn waxay leenahay akhlaaqdu qaybi waa fitri waa abuur qaybi waa abuur qaybina waa muktasab waa wax la barto oo tadriib iyo training waa wax tababar loo galo si aad naftaada u dhisho oo qurunka uga dhisho oo aad ka dhigtid qof suuban oo hagaagsan nabiga calayhi salaatu wasalaam wafdi baa u yimi nin ashaj cabdilqays la yidhaahdaa uu la socdo ninka kan wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina fiika la khaslatayni yuxibuhum allah waxaad niya u leeday laba dhaqan oo ilaahay jeceliyey laba dhaqan oo ilaahay jeceliyey wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam riwaayaadku waa kala gedisan yihiin riwaayadda muslim waxay sheegaysaa alxilm walanaah dulqaad iyo kaadsiinyo hubsiino waxaa tahay qof dulqaad badan oo dulqaadku qofku inaanu wax yari ihaara ku samayn inaanu kicin soomaalidu waa dad soodhaa inta badan waa dad uu aad ugu yaryahay dulqaadka iyo sabirku laakiin nebigu ninkan wuxuu ku ammaanaya inuu yahay qof deggan marka hore oo anaa leh deganaanshiye leh dulqaadna leh riwaayadda imaamu nasaa'i say sheegayso wuxuu ninkii weydiiyey shay-un jubiltu calayhi aw shay-un atakhallaqu ma wax ilaahay igu abuuray baa mise waa dhaqanaan kasbaday ma dhaqanaan yeeshay anigu iyo xirfad ku keenayba mise waa wax ilaahay subxaana wa tacaala igu abuuray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa bal jubilta calayh maya labada tan adigu waa sajiya waa abiica ilaahay subxaana wa tacaala kuga abuuray idan qaybi baynu leenahay dhaqanka waa abuur oo waa ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala qaala inamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki ghulaaman zakiya ciise ilaahay markuu maryamo siinayey ugu bushaaraynayey malagii u yimi wuxuu leeyahay waxaa rabbaa isoo diray si aan kuugu hibeeyo ghulaaman zakiya ghulaan la tahiray wiil fadiilo oo dhan wata waxay culammadu yidhaahdaan min طabcihi bay ciise ka mid ahayd in sidana ilaahay u abuuray subxaana wa tacaala idan waxaynu leenahay akhlaaqiyaadka qaybi waa abuur oo dee waynu kala cadho badannay hebel qofna waxaa laga yaabaa inuu marka laba eray la yidhaahdaba kaco qofna inuu degan yahay oo uu dul qaato waa kala sabir badannay waa kala abuurkeenna hore laakiin haddana waxay leeyihin culammadu qofka bini aadamkaa inta la tababaro ayaa la gaadhsiin karaa inuu dulqaad yeesho inuu cadhadiisu degto inuu gacan furaado wax allaaliya waxaynu fadiilo u naqaano wanaag iyo dhaqan u naqaano qofka waa loo rabayn karaa bay leeyihin haddii la rabeeyo dee xayawaan baa la rabeeya ama bini aadam baan la rabayn karaynin xayawaankaa kaynta ordaya ayaa la qabtaayo inta la tababaro waxaad arki qaar shabeel tababartay ama libaax tababartay libaax iyo shabeel haddii la tababaray ma qof bini aadam oo nool baan la tababari karaynin markaa saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo qaybta mukhtasabka ee bini aadamku uu hanto ka warramayabaa wuxuu yidhi inama alcilmu biاtacallum wa inama alxilmu bitaxallum waman yataxara alkhayra yucطa waman yatawaqa shara yuwaqah nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa daarqutni warinayo sheekh alalbaanina xasan ku tilmaamay wuxuu leeyahay cilmigu barashu ku yimaada ambiyadaa waxyigu ku soo dega mooyaane dadka inta kale waxbay barteen waxaa khabiir la sheegayo caalim la sheegayo waa qof wakhti iyo juhdi geliyey idan cilmigu barashu ku yimaadaa buu nebigu leeyahy wuxuu kaloo nebigu leeyahy dulqaadkuna dulqaad barashu isna ku yimaada oo qofka bini aadamkaahi waa la gaadhsiin karaa xad uu dul qaato laakiin wuxuu u baahan yahay ciddii riyaadada nafsiga ah tababarka iyo tadriibkaa dhabta ah siin lahayd
sida jidhkaagaba loo tababaro qofka cayaartooga ah halkaa inta bannaanka loo saarabaa la baraa jidhkiisa inuu flexible noqdo inuu murqaya yeesho inuu ka noqdo qof bini aadamabaa midna qaarka sare loo weynayn karaa midna qaarka hoose loo weynayn karaa waayo waa qofba sida loo tababaray kuwan feertama waa aragteen garbaha iyo tuurta iyo labada gacmood intaasaa weyn mijaha kuwaygoo kaleu leeyahy yacni maaha qof xoogan maaha sidaa awgeed waa kuwan long tenniska cayaara xataa labadiisa gacmood baa kala weyn tuu ku cayaaraa weyn ka guranna bidixdaa weyn ka midigtaana midigtaa ka weyn gacantiisa waayo tani exercise ka badan bay heshay ta kale intay helayso si awgeed qofka bini aadamkaa jidhkiisa waa la tababari karaa waxaa la mida naftiisana waa la tababari karaa sidaa jidhkiisa riyaada loogu sameeyey ayaa riyaada nafsiya loo samayn karaa oo qofka la bari karaa inuu dul qaato inuu hadal fiican ku hadlo inuu dhaqan wanaagsan yeesho inuu cadhadiisa qarsan karo inuu wax bixin karo inuu dadka ixtiraami karo inuu waayeelka tawqiirin karo waana waxa loo furtaba dee madaaristan iyo iskuulladan iyo dowladuhu waxay wasaaradka dhan u samaystay waa kan innagu waxaynu haysanaa meelaha la tago in muxuu cilmi soo bartaa la isweydiiya waxa ka fiican inaad tidhaha muxuu dhaqan barta ilmuhu muxuu isbeddel samaynaya si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay xilmigu iyo dulqaadku waa wax la barto war ninkii khayr raadiya waa la siin buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninkii shar ka dhowrsadana waa laga dhowri buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walidaalik buu nebigu wuxuu tilmaamayaa xoog badnidu ma aha inaad qofka legdi karto ee xoog badnid buu nebigu yidhi waa qofka naftiisa hanta markuu cadhoodo bini aadam aan cadhooni ma jiro bini aadam aan hoosta ka guban marka erayada qaar ama waxyaaba qaar lagu sameeyaa aanay dhibini ma jirto laakiin waxaa lagu kala gedisan yahay jawaabta aad qaadanayso marka lagaa cadhaysiiyo miyaad cadhadaada xejin oo si qof miyir qabaad u hadli mise waad waalan oo waad burqan oo afkaad furan soomaalidu intuu waxuu doono dhil iyo dherigaba jabayaa buu yidhaha waan cadhooday dee lama waasho haddaad cadhooto waxay haddaad cadhooto inaad isku daydo inaad cadhadaada kontrooli kartid inaad naftaada xejin kartid si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay xoog badnidu ma aha muuqaalkan sare iyo jidhka xooggane xoog badnidu waa qofka naftiisa kontrooli kara xejin kara nin saxaabiyaa nebiga u yimi oo wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo calayhi salaatu wasalaam ila tali awsini nebigu wuxuu ku yidhi laa taqdab ha cadhoon markaasuu faradada miraaran waa ku celceliyey ila talidii xadiidka bukhaari warinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam uma dhaafin laa taqdab markuu yidhaahda ila taliba ha cadhoon buu ku yidhi waxa ka muuqata ninka kan inuu nin xiddo kulul ahaa nin sharaarad yaro loo kale laakiin waxaa la siinayaa daawada isaga u cuntanta nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa waxaad arki doontaa mid le ila tali oo waxu sheegayo mid kaleoo wax weydiinayo waxu sheegayo macnaheedu maaha inay axaadiistan iskhilaafsayin macnaheedu waxa weeyaan nebigu tabiib buu ahaa calayhi salaatu wasalaam dadkan dawaynaya bulsho uu yaqaanaybu wuxuu dawaynayaa xanuunnada ay qabaan wax ay hayaan qof aad ku og tahay inuu sharaaro kululiyey hadduu ku yidhaahda ila tali dee talada ugu fiican in la siiya waxa weeya waa niyow deg ha cadhoon marka la leeyahay ma waxa weeyaan dhiiggaagu yuu karin oo cadhaha dareemin qof bini aadam aan cadho dareemini ma jiro qof bini aadam aan cadho dareemin marka la kiciyaa ma jiro laakiin waa maxay waxa weeyaan waa naftaada tababaroo waxaad ku tababartaa inaad gaadho walkaadimiina alghayd ilaahay qaar buu wuxuu ku tilmaamayaa kuwa af xidhaya cadhadooda kuwa kadmi ku samaynaya ama xidhaya cadhadooda si awgeed baa xadiidkii inoo tilmaamayaa wainama alxilmu bitaxallum dulqaadku inuu yahay wax la barto haddaba waxaynu leenahay waxa la yidhaahdaa akhlaaqdu qaybina waa dabeecad ilaahay kugu abuuray waa kala deeqsisannay dadka badh baa ilaahay u dhaliyey inaanu adduunku qalbigoodaba degine gacantooda ay furraato laakiin haddaad qof muslim oo dhab tahay waad baran kartaa in gacantaadu furraato gacan furridu maaha markaad xoolo badan hesho inaad wax bixiso waxa yar baa wax laga bixiyaa qofka waxa yar wax ka bixin karaa waxa badanna wax ka bixin karaa
waa wax la baran karo inaad xilmi yeelato waa wax la baran karo inaad dadka ixtiraamto waa wax la baran karo weliba schooling systemku iyo malcaamadaha iyo madaaristu marka aan afkaartani bislaanin innaga waxaynu dadka barraa markaa waxa weeyaan cabsi macallinku markuu soo galo yararku inay sidii jiir la qabtay iswada taagaanuun isnabaan markuu baxana inay buuqaan waayo wuu baqayee muu baranin in la deganaado maad u tababarin qofkani inuu deganaanshiiyo heli karo maad u tababarin qofkani si xasiloon inuu u socdo ee waxaad u tababartay ushaa markuu arko iyo markuu adiga ku arkaba inuu istaago markaad adigu baxdana inuu wixii doono sameeyo idan cabsidu maaha wax bini aadamka lagu tababaro bini aadamka waa la train gareeyaa si kale wax loo baraa si awgeed waxaynu leenahay akhlaaqdu wax la barto iyo wax abuuraba way leedahay ta abuurkaana waa la sii xoojin karaa meelaha aad hanjafka ka gaaban tahayna waa lagu kamili karaa ama waa lagu dheerayn karaa waxaanad ogsoonataa waxay dhahdaan culammadu iyagoo aayad qur-aana daliishanaya aadanuhu laba ceebood buu leeyahay bay yidhaahdaan ama laba cawro laba ceebood oo u baahan in la qariyo buu wada leeyahy labada saw-aba ilaahay sutra buu u sameeyey wax lagu qariyo cawra waa cawradan jidhkii aynu naqaano waxaynu ku qarinaa dharka isla markaana waynu isku qurxinnaa dharka waxaynu u xidhannahay sababo badan laakiin sababta koowaad waxa weeyaan inaad cawradaada asturto sababta labaad aynu u xidhannaana waa maxay waa inaynu isku qurxinno oo dee cawrada maro kastoo aan isku duuduubna waa qarin lahayd laakiin waxaad mid gaara u tolatay ee usoo kaakaawadaysay ee saan ugu gashay inay liziina kuu noqoto haddaba hadday jidhka sare maradu asturto cawrada hoosena akhlaaqda asturta qofku hadduu akhlaaq leeyahayna waa asturan yihi hadday akhlaaqdu kugu yartayna cawradaadaa muuqata dadka badh baa markuu waddada kaaga soo baxaad sodhanaysa ka weeco nebigu calayhi salaatu wasalaam qaar buu wuxuu yidhi si fiican u salaamkaasay ku tiri caaisha sawkii ninkan aad warkaa ka sheegtay bi'sa akhul cashiira buu ku yidhi markaasuu yidhi waa kuwa sharkooda lagaga nabad galo yacni dadka badh baad isku dayaysaa the minimum wakhtiga ugu yar inaad la qaadato waayo waxaad is leedahay keliya nabadgeli maysid haddaad wakhti badan la sii joogto sidaa awgeed qof kastoo inaga midi subaxii markaad toosto waad wejigaad dhaqataa afkaad cadayataa waad isnadiifisaa haddaad nin qolada sare ah tahay waad isa sii buufbuufisaa waxaasoo dhan waxaad u samaynaysaa aadamahaad u tegaysaa inaanu ama ur aan qurux badnayn kaa helin ama muuqaal fool xunle aan kugu arag waxa ka qurux badan jamaalul afcaalka in dhaqankaagu quruxu leeyahay ayaa ka qurux badan marada sare la xidho taasaa u baahan inaad dadaasho oo aad isku daydo qof waliba wuu isogaya ceebihiisa qof aan is aqooni ma jiro mostly waad isgaranaysaa meelahaad hanjafka ka gaaban tahay haddaba waxaad u baahan tahay inta aanad cadayga iyo marada iyo cadarka iyo shaambooyada ka fakerin inaad ka fakerto qalbiga iyo saaad u daahirin lahayd saad naftaada uga dhigi lahayd naf rabbaysan ilaahay wuxuu leeya yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari sawaatikum wariisha wa libaasu taqwa dalika khayr waa reer nebi aadama waxaan idiin soo dejiyey baa ilaahay leeyahy libaasan yuwaari sawaatikum maro ama hu aa ku qarin kartaan cawradiinna iyo wariishan baa ilaahay yidhi iyo ku la ysku qurxiyo laakiin waxaa la sheego kale wa libaasu taqwa dalika khayr baa la yidhi huga taqwada huga dhaqanka iyo akhlaaqda iyo alla ka cabsiga ayaa ka khayr badan waxa kale oo dhan waxaan leenahay markaa waa laba hu oo la wada qaate eh yuu noqon ninkaad muhiimadda siinaysaa kan sare
hooyada aabbaha ilmaha maryo fiican ma loo talo ciiddii maro ma la siiyey innaga dhammaanteen waxaad mooddaa ka muuqaalku inuu inagu badan yihi dunidan materialistkii aynu nimina dee dadkaba jeebkiisa lacagta ku jirta ku qiimeeyaa iyo kursiga uu fadhiyo oo humankaba waxa loo kala fadilaa sida jeebabka lacagta ku sitaan u kala badan yihiin laakiin lacagtu waa maadaadkan dhulka yaalla ka mid ah insaanka sayidka ah meesha tan insaannimaduna waxay ku dhammaystirantaa bacda alcaqiida waalcibaada dhaqankaa dhammaystira haayada bay yidhaahdaan markaynu ka nimaadno bacda rida allaah haayada laga leeyahay akhlaaqduna waa buluuqi alkamaali albashari wasacaada taama bay yidhaahdaan waa in qofka la gaadhsiiyo aadamnimada dhammaystiran aadamnimada dhammayska tiran leh waa in qofka la gaadhsiiyo walidalik baa waxaynu tilmaamaynaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam min dalaa'ili nubuwatihi waxaa ka mida xusn alakhlaaq waxyaabay culammadu u deliishadaan nebinimadiisa bal qabla almucjiza dad baa ku rumeeyey dhaqankiisa daraaddeed oo nebigu calayhi salaatu wasalaam kamaal bashariya buu lahaa qof dhaqankiisu uu dhammaystiran yahay buu ahaa qof ilaahay taskiya siiyey ilaahay nadiifiyey oo xumo badan ka nadiifiyey buu ahaa saa awgeed waxaynu leenahay gruubkii koowaad ee muslimiinta ee islaama islaamnimo nebinimadiisa waxay u deliishadeen dhaqankiisa khadiija radia allahu canha markuu qaarulxiraa ka yimi ee waxyigii u horreeyey ku soo degay isagoo kurbaysan uu yimi waxay u deliishatay nebinimadiisa iyo dhaqan wanaaggiisa kallaa wallaahi maa yukhziika allahu abadaa bay tidhi ilaahay baan ku dhaartay inaan rabbi weligaa ku hoojinaynin sababtu waa maxay innaka latasilu raxm waxaad ahayd bay leedahay mid qaraabo xidhiidhiya oo qofka culayska ka qaada oo kaan waxaysane macduumkaa wax siiya oo martida soora oo dhiboo yacni waxay sifaynaysaa dhaqankii akhlaaqeeda u lahaa akhlaaqdani bay leedahay waxay tilmaamaysaa qof alla doortay inaad tahay qof xumo ku soo socdaan ma u muuqatid bay ku tilmaamaysaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wasfiga ugu weyne uu nebiga qur-aanka ugu qoray waa wainaka la calaa khuluqin cadiim waxaad tahay mid ku sugan wainak waa jumla ismiya adawaatu tawkiid lagu bilaabay xarafka la isticmaalay waa calaa alculuw waxay yidhahdaan waxaan oo dhamme waxay tilmaamayaan baa yidhahda fii cilmi luga marka la eego nebi maxamed akhlaaq dhammaystiran diin dhammaystiran inuu ku sugan yahay ilahay wuxuu leey wainaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq dhammaystiran mid ku sugan baa tahay idan waxaynu leenahay akhlaaqdu waa min dalaa'ili nubuwaba waxyaabaha loo daliishado nebigu inuu nebi yahay bay ka mid tahay waxaa kugu filan xadiidkii bukhaari ee heraklis boqortooyadii ruum ninkii haystay abu sufyaan oo gaal ah oo aan muslim ahayn ayaa la waraystay markii waraaqdii nebigu uu diray ay u tagtay calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi cidima ka joogtaa qoomkaa oo waxaa la soo helay 6 nin dabeetana abu sufyaan baa la waraystay warkii abu sufyaan la waraystee la weydiiyey hiragal 13 ama 14 su-aalood buu weydiiyey intiiba wuu uga jawaabay waxaanay wada tilmaamayeen dhaqankiisa wuxuu heraklis leeyahy markaa fain kaana maa taquulu xaqaa waxaa ii sheegteen hadday run tahay fasayamliku mawdica qadamaya haatayn wuxuu hanan doonaa halkan aan jooga buu leeyahy waan ogaa in nebigu soo baxayo laakiin maan moodayn buu leeyahy inuu idinka mid yahay ee haddaan gaadhi karaya buu leeyahy waan isu xambaari lahaa waan isku dhibi lahaa inaan gaadho cagihiisaanan maydhi lahaa buu ku tilmaamaya waxa uu sheegay abu sufyaan waxay u badan yihiin dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u dhaqmayay biografigiisa markii looga warramay buu wuxuu ka daliishaday inuu nebi yahay heraklis wuxuu ka daliishaday biografiga nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nebi yahay abidar saxaabigii la odhan jiray markuu soo diray walaalkii uu yidhi war bal nin baa maka ka soo baxay oradii soo waraysa ninkaa xaalkiisa xadiiska kale bukhaari ku yaalla
وحليه ولالكي ونيسوان صعدي أوانمي دبتنا نكي بان دقيستي أبو ذر كسر نغضي أبو ذر وحكوي لوار محط كسر عرقتينكي رأيته يأمر بمكارم الأخلاق بي وحن صار كي نندت كفرية رقم مدى كوا وقفي عنا ما وقروح بدن له نفرية بصار ساو قد أيها الحبة وحن لنا حي الدين نبي قبر رسالة ديسي عليه الصلاة والسلام وعنوان وقدق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق لبدا الروايات بإمام أحمد باورين إيه هدو وقدق النبي عليه الصلاة والسلام عنوان الرسالة بقى إن يتهي أخلاق ذا إنه لما يستروح الله صادره وهي علماء ذو إلى أخلاق ذو هو صدح غضب الشيطان يقول آيات قرآن الدليشانية واحد هو بذل المعروف وكف الأذى واحتمال الأذى بين هذا أخلاقين تأسكون أنت بين هذا وقفك السماها السمائية بذل المعروف وحي عرفك كفي عن معروف كيدتك وذقيريه قفك السمائية يقفك نبتي سدتك كهسته أنا سجى واحد بكسوفلين iyo qofkoo dhibta dadka kale kaga timaada u dulqaato aan caroon ama markiiba boodin waxay yiraahdaan akhlaaqintaasay ku koobantay intaana waxa laga qaataa bay yiraahdaan aayada quraana ilaahay leeyahay khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jaahiliin ilaahay wuxuu nabigiisa ku yiri khudil af wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jaahiliin afwiga qaado dadkana samaha far jaahiliinta iyo wax magaradka waxa ka soo gaadhana ka jeeso qurux malaha qofkii farta kugu soo taagay inaad shan ku taagtaa casriganna saasay u badantay wadaadkii wadaad kale eray ku yiraahdo isna waa inuu 10 ku yiraahdaa siyaasi kale eray ku yiraahdaa isna waa inuu 10 ku yiraahdaa qabiilkii qabiil kale laba eray ka yiraahdaa isna waa inuu 5 gabay u tiriyaa wixii noo dhami waxa weeyaan haddii mid la yidhaahdo waa in laageenaan idhaahdo laakiin nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo rasuulah oo ilaahay waxyi ku soo dejiyey oo kamaalil akhlaaq leh ayay waxay lahaayeen waa saaxir iyo waa kadaab iyo waa kan markaasaa ilaahay leeyay waa acrid cani iljaahiliin lama odhanin nimanka kule waa saaxir iska dhici iyo nimankaa kadaabka kugu sheegaya kan sheegaya إلهي وحكوا يدوا أعرض عن الجاهلين وحما قرطده وحبها ودكتاج إذا دقمكو وحوبها هي نفط الله توابره دقمكو معلومات معها والله يا باين أقوم تعضو بدنتي معلومات ترب بدنين information بدنين وماذا حاجة كتشرو أما من الدينات هذا أما من الدنيوية هذا لكن أسوأ الناس بعد نقوم كرتها هذانا iyadoo information kaagu tiro badan yahay yes information ka tirada badan leh uu ka qayb qaadanaya haddii training kaagu fiican yahay haddii dhaqan kaagu wanaagsan yahay waxa asali markaa wuxuu yahay qofka muslimka ahi inuu yahay mid dadka khayrka gaarsiiyo kow khayru naasi anfa'uhum ayuu nabigu tilmaamaya dadka waxa uu khayr badan anfa'uhum linnaas dadka ka ugu anfac badan leh وحكى له النبي قلت المام يا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم كنبطه وقفك مسلمين كنبط قالان عرب كيسه يقعنتيسه مد با يدي محان قبطه مركاسو النبي يقول سيدايه مركاسو يدي هدان كري وايره مركاسو يدي سيدايه مركاسو يدي هدان كري وايره نبي markii dambe wuxuu ku yiri dibtaadu dadka ka hayso hadaad wax ma taranimo isku ogtahay gacantaadii afkaaga waa ku xidhnaada daan waxba kala qaban karin وماذا هذا وحبا كوردين كرين سوغيد النبي عليه الصلاة والسلام كنت المام يا أكمل المؤمنين أحسنهم أخلاقا حديث كترمذي يا أبي داود الشيخ الألباني صحيح كنت المام إن شاء الله حديث أنت المام يردمي أما هو حسن ما هو صحيح وحو النبي كنت المام إن من خياركم أحسنكم أخلاقا صحيحين كحديث ياله إن من خياركم حلكي نوحا كم دبا إلهي لي دتك مرك الله ميره انت حلك اهي وحويان بالنبي يقول يا احسنكم اخلاقا وانت دقن كودو في عينه وحاول التقانين حديثك 40 كاينو كو ودا دغنو
دور صحابي النبي كوي هذين أوصيني 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 رواية أبو ذر كنت الله 40كم حي شيء اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفرصه وحلت المام إلهي سيد ولا رقم لها إلهي سبحانه وتعالى كدور سنارتي سي غضب كيسي على دي ساليدو سيجاركم أنت علميا وما دوين كسيدة في عن لو باري waxay cadeynayaan 400 oo maado inay ku jiraan sigaarka yara la qiiqinayo 400 oo maado FDA-ga Mareykanku waxay u ogol yihiin 599 addictive baa loo ogolaaday in lagu dari karo legal ah oo lagu dari kara 400 oo maado wax gaadhaya ayaa ku jira bay yiraahdeen qaar kamid ah hadaan idin sheego u fiirso waxa ku jira maadooyin suna waxa ku jira aan idin tiriyo qayb kamid ah sigaarka qiiqiisa la cabayo waxa kamid ah waxyaabo ku jira ammonia ammoniyadu waa waxyaabaan musqusha lagu maydho waa detergent musqulaha lagu maydho waxa kamid ah acetone ama acetonku waa solvent waa waxyaabahan mudiibka wax lagu dhalaaliyo mesela waxyaabo loo isticmaalo waxa kamid ah dumarku xamuurada ay marsadaan bahaladan la iskaga maydho acetone ba ka samaysantay waxyaabahan lagu maydho ee lagu dhalaalinayo xamuuradan yar ay dumarku marsadeen acetone bay ka samaysantay waxa kamid ah toluene yana waa mudiib kale waa solvent kale oo industrial warshadaha lagu isticmaalo waxa kamid ah ilaa iyo 6-7 maado oo la wada ictiraafsay inay ka mid yihiin mawaad musartana ama carcinogenic substances mawaada keenta kansarka pyrin baa ka mid ah urethane baa ka mid ah naphthalene baa ka mid ah cadmium baa ka mid ah cadmium ma taqaanin qiiqa sigaarku ku jira waa baaterigan gawaadhida bahal ku jirta baateriyadan gawaadhida inuu ku kaxaysano bahal ku jirta weeyaan cadmiumku waxa kamid ah dibenzofurane waxa kamid ah maadad mushaca xataa radioactive qaar ah polonium 210 baa kamid ah oo maada mushaca maada radioactive leh waxa kamid ah sumo مثلا maadadan arsenic la yiraahdo arsenic waa poison lethal poison weeyaan waa sunta quraanjada cad markay ku qaniintay kugu reebto quraanjadana cad sumaha markay dadka qaniintay ku reebto waa arsenic baa la yiraahdaa waxa kamid ah naphthalene waa sun kale baashan yar ee dharka ku xoqxoqataan sunta ku jirta weeyaan waxa lagu laayaa dadkan jirkeenu markuu gaboobo xasharaad baa jira dusheena iska fuusharo cuna dadkan allergic noqda baa marka allergic ku noqda marka bahashaas العثبة في عربي العثبة يراهدان قاتل العث ويان و حيوانada sariiraha korkooda sariir carruurta yar ee allergic la yiraahdo laga bedelo sariir waa xayawaanka saaran sunta lagu laayo ayaa kamid ah waxa kamid ah DDT caadiya ku jirta qiiqa sigaarka waxa kamid ah carbon monoxide iyo carbon dioxide labaduba waraaqdiisan sare gubanaysa carbon monoxide baa kamid ah carbon monoxide waa qiiqan uu soo daaya gaadhigu intaanu waliba oxygen-ta dabada la kulmin aanu dioxide-ka noqonin ee monoxide-ka weeye waana sun sidiisa waxa kamid ah methanolku waa rakidyadan cirka loo diro shidaalka lagu shido ayaa kamid ah waxa qiiqa sigaarka ku wada jiraan waxa kamid ah butane gas wala cadan yara la shido gaaska lagu shito shidaalka laga soo dhex saara kamid ah waxa kamid ah phenyl chloride waa plastigiska ladaayinka plastiga marka la sameeyo maada kamida mawaada lagu sameeyo waxa kamida mawaada ku jirta gaasiskan meelaha wax lagu gowraco waxa jira xayawaanada qaar ay bakhtiyaan oo gaas lagu dilo gaasiskaasi sunta qaar kamida ku jira yani kullu hada aan sheegayo haddaad Google Images ka gashaan ama YouTube aad gasho waxaad arki doontaa iyadoo xabad sigaara inta la sawiray bahal sumahan oo daasada ku jiraan ay dhinac kaga wada sawireen oo la tilmaamayo waa masaa'il aan muran ku jirin
waxaa la rumaysan yahay maanta kansarka ugu tirada badan lee dunida ka dhacee laab ku dhaca inuu ka yimaado qiiq sigaar. sigaarka inaynu isku maanta ma aha mas'alo muran ku jiro inuu boysi yahay, bale waxaa la leeyahay 600 oo kun oo qof buu dilaa oo ah sigaarka salbiga ah, ka cabaya mooyaane kan soo afuufay dadka ay la nuugayaan kuwa u dhintaa 600 oo kun dunida gaadhaya bay leeyihiin. sigaarka caadiga suuratu muzammil wuxuu ilaahay kaga warramayaa bay culammadu yidhaahdaan zaadi lmu'min ama sahayda qofka mu'minka ay dunida tan uu u baahan yahay iyo diintan inuu faafiyo. sahayda qofka mu'minka uu u baahan yahay ee daalkan iyo waxaan oo dhan ilowsiinaysaa waxaa ugu horraysa munaajaat ullahi subxaanahu wa tacaala. yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila. saxaabadii bilowga ahayd ee diinta hadda soo gashay ee diinta hadda loogu yeedhayay waxaa lagu bilaabay inay ilaahay isu taagaan, habeenkii in badan inay istaagaan. nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam si uu u taagnaa ayaa caguhu barari jireen. qofka intay ku qaadataa in cagtu ku bararto. haddaad 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo habeenkii intaad kacdo tukato caguma ku bararayaan. goormaa cagi barari kartaa? waa mar hadda intee taagnayd. saacada dee wayna taagan tahay. ilaa nisfahu aw inqus minhu baa la yidhi aw zid calayhi qaliilane. haddii aad wakhti badan taagan tahay markaasay dhici kartaa in cagu ku bararaan. haddiise aad nuso saac iyo 20 daqiiqo iyo 40 daqiiqa taagan tahay cagu ku barari mayso. nebiyullaahi moxamed waxaa zaad looga dhigay qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil ilqur'aana tartiila. maxaa loogu xigsiiyey? zaadka mu'minku kow waa munaajaat ullah oo qiyaamu leyla. ka labaad ee looga dhigay waa maxay? warattil ilqur'aana tartiila, inuu qur-aanka akhriyo. qofka muslimka ahi waa inuu wardi yowmiya oo fiican oo qur-aanka u akhrinayo. waa inaad ugu yaraan maalintii aad aqbashaa ilaahay inuu kula hadlo. ilan qur-aankani waa kalaamullahi subxaanahu wa tacaala, waa ilaahay hadalkiisii. qur-aankani waa 3 shay oo wada socda bay culammadu yidhaahdaan. waa mucjizadii nebi moxamed calayhi salaam, waa kalaamkii ilaahay ugu horrayn oo weyni u baahan. waa mucjizadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waa risaalada daatuha, awaamirteedii iyo nawaahideedii iyo wixii lagu farayay intaba kitaabkay ku jiraan. idan waxaynu u baahannahay qur-aankuna wardi yowmiya inuu kuu yeesho. warattil ilqur'aana tartiila innaa sanulqi calayka qawlan haqiila baa ilah yidhi. war culus ayaa lagugu soo rogayaa baa la yidhi. war culus baa lagu dhiibaya. laakiin warkaa culusi muxuu u baahan yahay? ina naashi'ata alleyli iyo ashaddu waط'an wa aqwamu qiila. cibaadadaa habeenkii la amaamudo ee laysu taago taas baa gomadana sugta, warkana warka u fiican ah. maxaa ku xiga? ilaahay markuu intaasoo dhan faray ayaa waxaa la faray rabu اlmashriqi wاlmagribi laa ilaaha ilaa huwa faاttakhidhu wakiila. tabatulka iyo qur'aanka iyo soo jeedka markii la faray ayaa waxaa la faray nolosha gebigeedabana inuu ilaahay tala saarto. allaha ah baa la yidhi rabbiga ah, mashriq iyo maqrib baa allahu rabbiya. allaha cibaadada keligii le laa ilaaha illaa huwa ah faاttakhidhu wakiila baa ilah yidhi subxaana wa tacaala. ilaaha u tala saaro nolosha dhammaanteed. waxaa loo sheegay haddana noloshu inaanay dhib waayeynin. markaasaa maxay la yidhi? wasbir, maxaa ku xiga? calaa maa yaquuluuna wahjurhum hajran jamiila. waxaa la yidhi sabir, wixii kaaga yimaadee kasta. adigo haddaad diin sheegto lagu yaro maaga maxaad samaynaysaa? cadha madaxu ku dilaacaya soo maaha? bala inaad dagaalantaabaad u dhowde. duku caaya maxaad yeeli lahayd? kaad lahayd warkaaliyo tuko.
adna kitaabka intaad dhigato feedh ma u duubanaysaa ya ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya ambiyadii oo la maagayo oo sukhriya lagu samaynayo istihzaa oo waa saaxir la leeyo waa kaadib la leeyo adoo ilaahay ka warramaya marka lagu idhaha beenaa laa tahay ama saaxiroo laa tahay maxaad samayn lahayd wii caayay baad odhanaysaa oo miyaad ogolo ilaahay dartii in lagu caayo ilaahay wuxuu leeyahay sabir calaa maa yaquuluun waxa ay ku hadlayaan oo dhan waxbaa ka soo qaadin baa la leeyahy ilaahay baa tiisa dadka ugu yeedhaysa hadday afxumadoodu badatana wahjurhum hajran jamiila iskaga tag khud ilcafwa waamir bilcurfi waacrid can iljaahiliin waa wax magarato ee ka jeesa baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala kuwani waa wax magarato ee ka jeeso dardashadayda waxay ku kooban tahay markaasi haddii waxyiga saddexdan ay u soo horreeyeen saddexdan suuradood ay u soo horreeyeen meeshuna ay ahayd jaahiliya alcarabiya meel sanam la caabudo oo laysdulmiyo oo nabad iyo dawlad iyo waxba toona aanay ka jirin oo ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed u soo diray calayhi salaatu wasalaam inuu dunidoo dhan islaaxiyo nebi maxamed makaa laga soo saaray laakiin xaggee loogu talagalay tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira waa aayad makiya isagoo aan maka ka bixin baa la leeyahay dunidoo dhan baad u digaysaa loo soo diray inuu adduunka oo dhan u digo qof kasta oo raba markaa inuu waddadii nebi maxamed qaado calayhi salaatu wasalaam raba inuu bulshooyin isbeddel ku sameeyo raba inuu diin xambaaro raba isaga laftiisu inuu badbaado saddexdan shay kama maarmo kii u horreeyey muxuu ahaa masalat alcilm masalat alcilmi kama maarantid siiba culumta xagga alle ka timi masalat alcilm waynu leenahay gaar ahaan tii ilaahay xaggiisa ka timi nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man yurid illaahu bihi khayran yuwafiquhu fi ddiin cilmi waxa uu horeeya kan diimeed waayo kani sabab wuxuu u yahay inaad ilaahay barato ilaahay haddaanad garanayn si fiican uma caabudi karaysid inaad ilaahay barato sabab u yahay wuxuu sabab u yahay cibaadadaadu inay asaxdo cibaadadu uma baahna dadku siday yeelaan un inaad yeesho ninkii salaada tukaday muxuu nebigu ku yidhi salli fainaka lam tusalli hadday un daawasho tahay iyo sida dadku yeelayaan yeelaya kanaaba saxaaba arkayey kanaaba maxay saxaaba arkayey kaasaa lagu lahaa salli fainaka lam tusalli wuxuu cilmigu faa'iide u yahay nolosha iyo kala socodkeeda oo noloshoo dhan baa u baahan aqoon u baahan xalaal iyo xaaraan u baahan inaad kala garato idan adduun iyo aakhiraba inaad badbaaddaa cilmay u baahantahy diin inaad ku dhaqantaana cilmay u baahantahy xataa adduunka callama bilqalam baa ilaahay tilmaamay noloshoo dhamme maanta dunidu waxay u kala xoog badantahy siday u kala cilmi badantahy soo saa ma ogidin markay maadada tagto siday u kala cilmi badan tahay bay maxay ayay u kala xoog badantahy sida ay dhaqaalo badan u kala gelisay cilmigabay u kala xoog badantahy wadannada nimanka la yidhaha waxbaa horumaraya waxbaa ka noqday macnaheedu waxa weeyaan un hanti badan bay geliyeen caqliga bini aadamka in la yidhaho waxbaadh hanti badan 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 bay geliyeen baxfiga cilmigu lacag buu ku joogaa hanti badan markii la geliyey kadib bay midhahan dhashay iyaga jahligu wuxuu ka haystaa
kalaamullahi iyo ilaahay kitaabkiisii may daraasayn laakiin waxay u dhaqaaqeen khalqullahi inay daraaseeyaan oo ilaahay ficilkiisa inay bartaan laakiin qofka muslimkii muxuu u baahan yahay labadaba ilaahay kalaamkiisa iyo ficilkiisaba inaad daraasayso ilaahay khalqigiisa iyo kitaabkiisa labadaba inuu qofka muslimkii daraaseeyaa buu u baahan yahay idan noloshu haddii la rabo isbedel inuu ka dhaco laabudda min cilmin wa qiraa'a qiraa'adu ma dhammaato aqoontuna ma dhammaato bini aadamka cimrigiisa ka yaroo dhammaada gooruu qofku yidhaahdo waxbarashaan dhammeeyey ma jirto erayga soomaaliga ah waa la qalin jabiyey aad buu u qaldayay qalinku marna inuu jabo maaha marxaladun baa laga baxay qalinkaagu waa inuu kuu fiiqnaadaa intay naftu kaa baxayso waayo marnaba kama maarantid inaad wax qorto iyo inaad wax akhrido iyo inaad wax barato marnaba kama maarantid si awgeed dhallinyarada badh bay la culus tahay sanawaadka ma 4 sanaan ku jirana 5 baa lagu sii jirayaa 7 ka sii damay ma weligay ma waxbarashaan wadayna war ilaa intaad godkan ka galaysaa la wadaa tan imika aad tirinayso hore waa asaasiyaadkii waa wixii aad aqoonta ku dulbinaysan lahayd waa asaasiyaadkii nolosha ayaad ama asaasiyaadkii diintaad bilowday laakiin ilaa iyo intay naftu kaa baxaysa waxaad u baahantahay inaad wax barato nabi maxamed marra gaadhi maysid soo maaha haddana wuxuu ku ducaysanayay maxay allahuma inii asaluka cilman naafican waqul rabbi zidnii cilman bud isagoo waxyi samada uga imanaya buu haddana weli raadacaynaya in aqoon idan aqoontu ma dhammaato waana halka noloshaba laga bilaabo nolosha gebigeedaba halkaasaa laga bilaabaa qadiyadda labaad ee ay tilmaamaysay aayaadkani waxa weeyaan culamada ama dadka waxbartay waxaa la yidhi waa warasatu lambiyaa saxika maaha kuwii waxbartay iyagaa la rabaa inay dhaxlaan nebinimada waxyi ku soo degi maayo laakiin nebigu wixii uu ka tegey baa la rabaa maxay inay dhaxlaan su-aashu waxa weeyaa nebigu intuu gaadhay calayhi salaatu wa nebigeenna ayaa xaggee loo soo diray dunidao dhan soo maaha intuu isagu tegey wakhti intee leg buse noolaa intii risaaladu ku soo degtay qolada u badan taariikhdu 23 sano kuwa kalena waaba ka sii yareeyaan oo 22 sano dhowr bilood 22 sano kadaa way tilmaamaan haddaynu taa u badan qaadanay 23 sannadood inuu waxyigu intii uu ku soo degay ahayd 23 sannadood ee waxyigu ku soo degay jasiira alcarabiya kamuu bixin nabigu calayhi salaatu wasalaam xaggaana tabuuk buu gaadhay intaa yaree jasiira alcarabiya dagaaladu ka dhaceen ama diinta uu kafaafiyey unbuu nebigu tegey haddana waxaynu qur-aanka ku haynaa suwarkii makiga ahaa weliba in loo soo diray maxay dunidoo dhan inuu diinta gaadhsiiyo nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii u dambaysay ee xajatulwadaac muslimiintu isugu yimaadeena dadka intii uu tiro badnayd joogay muxuu ku lahaa allahuma hal ballaqtu allahuma fashal balliquu cannii walow aaya waar idinkaan risaaladii idinku wareejiyey buu nabigu leeyahy ilaw markhaati ka ahu inaan u dhiibay iyana innaga inoo soo dhiibeen innagu markaa ma halkaynu la fadhiyaynaa saxaabadii haddaad eegto inteebaa ku aasan baqiic wax yar saxaabada intii ugu badnayd xaggay jiraan ardullaahi alwaasica bay ku aasan yihiin caalamulislaami waxaan isleeyahay maanta intaan la haystee la degan yahay waa inta iyagu furteen waa saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intay furteen buu u badan yihi mas-uuliyadda bayna saaran yaa ayuha almuddairu qum faandir weliba idinka waxaad degantihiin dhul ay degan yihiin dad diimo kala haystaa soo maaha te ciyaal iskuulka calalaqal miyaa islaamin kari weydaan haddaa inta kala gaadhiba weydaan kuwa idinla da'dahaa kuwa meelahan jooga kuwan idin shaqeeya guryaha wada degantihin yaa ka shaqeeya ya dadaan muslim hayn soo idinma shaqeeyaan weli ma u sheegtay wax
mise waxaa tidhaha maraduuni maydh ya gabdhaha oo mayaayaan muslim ahayn muslim oo dhan baa laga rabaa qof kastoo muslim inuu diin sheego yacni mushkiladda ayna haysataa waxay tahay waxaynu u qaadanay dacwaddu inay tahay lecture in la jeediyo inta meel lasoo fadhiisto in lecture la jeediyo waa laga yaaba wasiilo ka mida inay tahay ama akaruhaa inay tahay wan weyn suba ku shub mahmaada soomaaliyeed ma taqaanaa wan weyn suba ku shub wanka de isaga subaga loo qashaa isagaa wada subaga haddaad subag kale kusii shubto maxaa dhacaya taa nimka idiin sheegaya waa wan weyn suba ku shubuun dacwadu asliyan waa dadka in ilaahay ay rumeeyaan in la gaadhsiiyo maalinta aakhira arkaanuliimaan sooma taqaaniin intaasaa asal u ah in dadka la gaadhsiiyo ummadoo dhan dhib baa kaaga iman doontae dhibtaa kaaga iman doontaana laba shay uunbay u baahan yihin inaad sabirto iyo inaad zaadkaaga sidato sahaydaada safar lama galo adigoon maxay sidan sahayda sooma taqaaniin adoon zaad sidan adoon sahay sidan safar lama galo marka sahaydaada inaad qaadato oo ah munaajaadkaad ilaahay la leeday salaadaad tukanaysaa inay badato qur-aankaad akhrisanaysaa inuu bato salaatuleylkaad tukanaysaa inay badato ilaahay tala saarashadaad tala saaranaysaa inay weynaato waxaasoo dhammi waa zaadkii culayska kaa fudaydinayay walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista maxaa ku dhigateen markay dhibtu ku dhacdo muxuu odhan jiray arixnaa biha ya bilaal ama idaa xasabahu amrun fazaca ila asalaa haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam wax murugo geliyaan xagga salaaddu waa carari jiray culayska maanta kugu yimi iyo dhibta kaa hortimi iyo mashaakilkao dhan maxaa rogaya inaad ilaahays hortaagto adoo soo jeeda oo waxaad akhriyaysa garanaya oo ciddaad la hadlaysa garanaya inaad ilaahaysa hortaagtaa wixii daal iyo mashkilad ku haystoo dhan bay kaa rogaysaa inaad ilaahay kitaabkiisa akhridaa wixii dhib iyo mashkilad ku haystoo dhan buu kaa faydayaa waddaduu kuu ifinayaa qur-aanka inaad laasimto ilaahay inaad tala saarataa waxay keensanaysaa makhluuqaad oo dhan inaad ka maaranto makhluuqaya awooddiisu inaanay kuu muuqanin mahmaa ay yihiin ilaahay baa wuxuu leeyay wadarnii waalmukadibiina ulin okay anigiyo kuwa isu ka eedaa baa ilahay yidhi anaa xisaabinaya waxbaad u indhaha u taagin kuwan daaraa dhistay oo waxa kan waa lagu xisaabinayaa su-aashuun bay badsadeen intaad cuntana wuu cunaa bishaad seexata meel leegna wuu seexdaa maradaad xidhantay mara leegna wuu xidhaa wadaad sool noloshuna waa intaa xisaabtunbuu badsaday su-aalaha aakhire la weydiinayuu buu tiro badiyey laakiin ilaahay wuxuu yidhi kuwa aniga iga tegey adigu aniga ii daabaa ilaahay leeyahy xisaabtooda xaggaygay jirtaa adigu shaqadaada qabsow kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay haddii saddexdaas suuradood aynu sheegnay ay yihiin saddexdii suuradood ee qur-aanka ugu soo hordegay waxaynu ka fahmaynaa asaaska dacwaddaynu inay saddexdan ku salaysnaato intaa ma gunti karaysaan maanta asaaska dacwadeed aynu rabnaa inay ku salaysnaato saddexdaa shay cilmi iyo balaaq iyo cibaada saddexdaa shay inay u noqdaan dacwadeenna sal inay u noqdaan haddii aynu saddexdaas sugno noloshuna way fududaanaysaa diintana dadka si fiican baynu u gaadhsiinaynaa dee anugu waan idiin soo ururinayay faahfaahinteedana kutubtiinay ku qorantay wsala allahuma calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaynu maanta ku faanno ee ahayd inaynu ka faanno anoo nin reer hebeloo ina hebel hebeloo awoogay hebel iyo hebel iyo hebel iyo muxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innamaa hum faxmu jahannam kuwanaad ku faanaysaa waa dhuxusha jahannamo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aw layakuunanna ahwanu cala allahi min aljucal alladii yudahdihu alkhara'a bianfih ama ilaahay agtiisa waxaa kaga liidaan doontaan xasharadan yare xaarwalwaalka la yidhahdee afkiisa saxrada ku qaada buu nebigu yidhi xaarwalwaalkan xaarka riixa
kaas baa ilaahay agtiisa ka maqaam liidan doontaan haddaydan aabba kufaankan iska daynin. ina allaha adhaba cankum cubiyata aljaahiliya wa fakhraha ilaahay wuxuu idinka keenay buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam jaahiliyadda kufaankeedii iyo aabbayaasheedii iyo waxeedii. dadku waa maxay buu nebigu leeyahy inamaa huwa mu'minun taqiyun wa faajirun shaqiyun. dadku waa mu'min ilaahay ka cabsanaya iyo faajir maxay shaqiya. annaasu kulluhum banu aadam wa aadamu khuliqa min turaab. war dadka aadam baa ninna meel kale kama iman. maadaas aad u socoto dahab gelaya dhoobadu maad gelaysaa aadam baad ka timi. cid meel gaara ka timi ma jirto. walidaalik nin dhallinyaradan yurub ku kortay oo wadaada oo diinta fahmay ayaa soo dhoofay. dabeetana wuxuu isiri reerahoodii iyo meelihii soo eg na sheekhay wada socdaa. markii uu yimi ayaa la ammaanay. waryaa ninkan yar waa kuwa waa ina hebel hebel. allah ma hebel baa awowgaaya ma hebel. inankii wuu yaabay sida awowyadii loo ammaanayo. deetana wuxuu is yidhi wallaahi awowyada taariikhdooda inaad ogaataa baa fiicnaan lahaa. raggan un la leeyahay ma hebel baa ku dhalay. odayadii buu waraystay war maxay qabtaa. taasaa waxaa loo sheegay berigaanu reer hebel isdilay waa hogaamiyey ciidankaagu leeyahy. berigii reer hebel waa ninkii xaggaa hogaamiyey. waxaa loo sheegay inankii sheekhii buu ku soo noqdo wuxuu yidhi dadkani miyay waalayihin nin qaatila bay ammaanayaan buu leeyahy. awowgay ii sheegeen war bal ii sheegeen wuxuu sameeyey o dhan markaan idhi waxa la ii wada sheegay buu ihi daduu laayey. nin maaqdar oo qaatila oo dad laayey ayaa la ammaanayaa buu yidhi dadkan maana muslimkii ahayn. gaal buu ka yimi wuxuu islaa dad muslimiin aad arkaysaayo islaamnimo ku faanayo haystaan. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inaga reebay inaan ku faano qabiilkan iyo waxaan kale la sheegayo. qur-aankaa ilaahay inoogu tilmaamo. nebi shucayb baa ilaahay wuxuu leeyahy qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu kaiira mima taquul wa innaa lanaraaka fiina daciifa. nebi shucaybow bay yidhaahdeen waxaan aad ku hadlaysaa nagu fahmi mayno wax badan oo ka mid a. adigana waxaan ku aragnaa qof daciif ah qof magaciyo maamusle kuuma aragno. walowlaa rahtuka larajamnaak. tolkaa haddaanay joogin dhagax baanu kugu dili lahay. waxaad leeyahay cilmigaa la kala qaataa culjarka lama kala ammaanaysto. mahatma gandi in aqoon-yahana buu ahaa oo waddankiisa rabay xornimo inuu horseedo. mahatma gandi aqoon-yahan buu ahaa laakiin wuxuu ka santaagi jiray dhaqan cid kale inuu qaato. saa awgeed wuxuu xidhan jiray laba go' oo cadcad iyo ul buu qaadan jiray. labada go' diintan uu haystay iyo dadkiisu waxay dhaqan u lahaayeen go'a hoose marka la guntado inta la duuduubaabaa dabagelis xagga dambea la geliyaa. marka labada adin dhexdooda inta laga saaro go'a ayaa sida bambarka carruurta loogu xidho kale ayuu u xidhan yahay. dadka waaweyn baa saa u xidhan. waxay sheegaan isagoo wixiisaa xidhan buu ingiriiska iyo meelahan yimi. wuxuu rabay inuu boqortooyada la kulmo oo uu ka dhaadhiciyo xorriyadda waddankiisu inuu helo. markaa ushiisiina sita labadiisii go'na sita. ay dhahdeen mid ingiriis baa oo taygiisii ku bakhtiisan oo xidhan baa wuxuu ku yidhi what is this. waa maxay marada dabada gashatee ku xidhantay maxay tahay. gaandiintaanu maradiisa ka jawaabinba wuxuu weydiiyey what is this. taygii uu kana xidhnaa ayuu yihi kani waa maxay. ninka wuxuu yihi this is necktie. kani waa qoorta bahalkii lagu xidhanaya waa qoor ku xidhad. and this is back tie buu ku yidhi markaa. yacni maxaa ka dhigay adigu maradaad qoorta sudhatana wax musallama anigu taan dabada sudhayna maxaa wargeliyey. hadba qoortaad mid iskaga xidhaye anna halkaan iskaga xidhaan buu yidhi. sheekh mustafa waradii waa annagana inaan u xirnaa sida dictormaadii u labisan yahay oo kale bakooradii maxaawiistii siyaasiyiintina u xiran u dirna caalamka. ama wiilkan dheerta dharka quruxda badan alaabta colorfulka soomaaligiis ama kaa kale maxaa ku jaban. tanna baagtahay baa la yidhaahdaa tanna nagtahay baa la yidhahdaa. maxaan uga dan leeyay waxaan uga dan leeyay kaljaradu ma aha cilmi hamoodin. adiga waxa lagaaga baahanya waxa weeye inaad dadnimadaada ku faantid dhaqankaaga inaad ku faantid waxaad leedahay inaad ku faantid maaha inaad maydhantid.